بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn dacalada adduunka meel kasto aad ka joogtaan habeen iyo maalinta idin tahayba waxaanu maquuran doonaa villa Soomaaliya oo caawa meeshii ugu darnayd taariikhda siyaasadda inta la og yahay maraysa qodobkaas isaga ah ayaan ugu soo noqonay inaan idin la wadaagno bahdeena Soomaaliyeed meel walba aad ka joogtaan dunida walaalayaal sida aad ka dharagsantihiin ama aad ka warqabtaan magaalada Muqdisho daqiiqada aan hawada ku jirno cawada siyaasadda Soomaaliya waa ay sarasabaynaysaa meeshii ugu xumayd ayayna maraysaa laakiin si aan ku fahamsiiyo xaaladda meesha ay marayso iyo tan jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland iyo midda madaxweyne Mukhtaar Robow waxaan rabaa inaan sheeko yar aan ku galiyo waa ku sheekaynaya markaas aad fahmaysaa maraan dhaweynba khilaaf xoogan ayaa ka jira villa Soomaaliya khilaafkaasi waa uu qarsanaa banaanka lama keenaynin dhacdooyin badan oo dhacay farmaajo ma uusan ogeyn qaarkoodna qayrama uusan ogeyn macnii madaxda kala duwan qof walba awood ku tagrifalida ayuu sameynay laakiin caawa maantay villa Soomaaliya بريان بوي تاجنيت لكن وان دورينا دارنا اس ام سي يجوبت علوس ما انت وحاسب توصى معني يصدق علي فاد ياسين او سردون كصومالي نينك هذا هيستا يو محمد عبد الله فرماجو او مدحوينها الصومالية عليكم السلام ابراهيم حريص وصولو يا اصحابتك علي ايا ستوصى ما انت قرد يسوق لي بريان ودن dagaalkan waa uu taagnaa macnii farmaajo iyo ma arkayse macnii laba loo kala jabay baash labay u kala jabtay qayb farmaajo ka soo horjeeda iyo farmaajo iyo xayir ayay u kala jabeen nimanku muruga iyo macluul sheekada si fiican u dhageysta waxaa miiska la soo saaray Zakariya in xilka laga qaado Zakariya tiisi markay martay farmaajona uu ka xun yahay cadaadis la saaray maadaama uu farmaajo ku beel yahay Faadiyasi ninka la yiraahdo iyo macnii farmaajona wuxuu u arkay Faadiyasi ninka la yiraahdo ninka macnii lagu jabinaya farmaajo oo dadka ku diraaya oo macnii balaayada oo dhan sameynaya Faadiyasiin inuu yahay ayuu farmaajo ogaaday bacdama sida uu ogaaday wuxuu miiska soo saaray farmaajo Faadiyasiin in xilka laga xayuubiyo marka sirdoonka Soomaaliya in laga qaado Faadiyasiin ayuu farmaajo macnii miiska soo saaray si Faadiyasiin macnii looga qaado xilka maantay maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu isugu yeeray khayre oo ra'iisul wasaaraha dalka waxa sidoo kale uu yeeray ninka la yiraahdo Faadiyasiin wuxuu u yeeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ambassador Maxamed Mursal Sheikh Waliinji tiimkaas oo dhan inta farmaajo ka soo horjeedo u yeeray محمد مرسل تاكما اوسان جدين اساقي اسحابتيسو فرماجة ما انت وما اوسان تجين وعيتان كي محمد مرسل لو يري واوكو قعان سايري محمد مرسل فرماجة كوما ايمان ايو يري فادياسين اصوار داي مرك فادياسين خيرا ايوكو قرب ياي محمد مرسلنا خيروكو قرب ياي ماشي اسبايسي باجرة دورشاد ياسون دواتي ويحي لغو شاك markii sida gorada la isu galiyay waxay gaadhay marka qir iyo qir Faadiyasiin xilka waa laga qaadaya iyo lagama qaadayo kan dadka igu diray waa adiga kan baydhaba xasuuqiisi Mukhtaar Robow iyo horseeday
farmaajo dhahayo madaxweyne mukhtaar robow in lasoo shirqoolo in xamar laga soo dejiyo in baydhabo sidaan loo galo ninka macnihii taladaasi iska lahaa faad yaasiin adigaad ahayd adigaa dhibkan oo dhan ii geystay waxaan anigu ogeyn badan ayaad dhibaatooyinaad samaysay anigaana dusha layga saaray amerikaanka baasaboorkii uu iga qaaday oo macnihii dunida oo dhan albaabadii bay iga soo xirxiratay dhibaatooyinkaas oo dhan buu yidhi farmaajo faad yaasiin adigaa macnihii iigu sabab ahaa adigaa hooyay oo aabbo u ahaa maadaama ay sidaasi tahay xilka waa inaad ka degtaa khayraa usoo danaaniyey maxamed mursal baa usoo danaaniyey ninka la yidhaahdo ma arkaysa faad yaasiin oo yidhi lagama qaadayo xilka faad yaasiin farmaajona wuxuu yidhi waa laga qaadaya maxamed mursalna wuu ku gacan sayray arrinta markay meesha marayso marka maanta saaad og tihiin marka ninka la yidhaahdo maxamed cabdillaahi farmaajo afgooya ayuu tegay idinku dhammaantiin ma la socotaan waad wada ogtihiin afgooya ayuu tegay afgooya dhismaa ka socda waxaa loogu dhisayaa guri farmaajo wuxuu rabay awal inuu dego baydhabo laakiin baydhabo ka hor mar wuxuu degay wasaaradda gaashaandhigga markii maxamed mursal uu ahaa macnihii wasiirka gaashaandhigga waa tii uu u guuray wasaaradda gaashaandhigga uu degay waxya raalli ahaada waraan idin keenaya raalli ahaada dulqaata war anaa idinka dharjinaya asalaamu calaykum okay waa mahadsanta maxaa kaloo soo kordhay okay mahadsani okay aan kaa dhexgala marka warka deg dega southern media hadda ii sheegayso caawa shir baa ka jiray guriga maxamed mursal sheikh oo ay shiraayeen xildhibaanada iyo ma arkayse federaalka ee Maryland mayizab wixii may ah wax maqan ma jirin guriga maxamed mursal bay hadday ka kala dhaqaaqayaan hadda waxaa albaabka ka baxay hadda cabdicasiis lafta gareen karasaay hadda ayuu ka baxay albaabka guriga guddoomiyaha baarlamanka saacadda fiiri saacadda waxay maraysaa yurubta waxaa weeye 9:58 daqiiqo waay soomaaliyana waxaa weeye 11:58 daqiiqo waay cabdicasiis lafta gareen 11:57 daqiiqo hadda ayuu albaabka maxamed mursal ka degay hadda just now hadduu ka baxay guriga maxamed mursal ee ku yaala ma arkayse muqdisho hadda ayuu ka baxay caawa oo dhan shir bay ku jireen magaalada baydhabo hal nafar oo ku soo haray ma jiro oo xildhibaanada federaalka mayga ah intii joogtay oo dhan maanta 3 dayuuradood bay soo qaateen muqdishoy isku soo shubeen arrintu way dhanaan tahay arrintan waxay la xiriirtaa arrinta doorashada masiirka Maryland iyo waliba arrinka galmudug xildhibaanada ay doonayaan in laga siiyo waxaasoo dhan bay isku xirxiran tahay laakiin sirdoonka hadda wuxuu ii soo warramay hadda ninkii jooga way daawanayeen qaarkood xildhibaanada mayga ah oo guriga mursal qaarkood hadday ka baxayaan hadday rabaan inay albaab ka degaan caawa oo dhan shir bay ku jireen maxamed mursal wuu diiday inuu la kulmo cabdullaahi farmaajo inuu la kulmo waa uu diiday yes 11:58 daqiiqa markay ahayd ayuu albaabka ka degay cabdicasiis lafta gareen karasaay guriga maxamed mursal buu ka baxay ninna ma maqnayn hal xildhibaan oo may ah oo federaal ah ma maqnayn kuwii baydhabo joogayna 3 diyaaradood bay soo qaateen iyagoo go-aan mida soo qaatay maanta okay ninka sheekadaan idiin wadaaya marka saad ogtihiin maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu doonayay inuu magaalada muqdisho macnihii afgooye inuu dego horay buu u rabay afgooye intuusan saansan villa soomaaliya inuu deguu rabay marka yaan lagu gaadin maayo meel fiican baad ka haysaa maanta villa soomaaliya inuu macnihii wasaaradda gaashaandhigga inuu deguu rabay macnihii wasaaraddii gaashaandhigga markii jawaari la riday waatan uu ka soo guuray dib uuga soo guuray arrinta markay ku dhanaanaatay macnihii waatan afgooye mar hore uu isku dayay inuu dego uu sahan ku tegay iyadoo ma arkaysa aadan madoobe iyo xildhibaano badan ay la socdaan afgooye inuu dego uma aysan noqon dib uu u sool noqday arrinta ayaan dhaweyd markay dhanaanaatay waatan baydhabo inuu dego isku dayay oo macnihii baydhabo inuu usoo guuro mukhtaarna uu soo kaxaysto
uu isku dayay si uu saldhig uga dhigto annagaa fashilinay oo macnihii saldhigga koowaad baydhabo uu ka dhigta kan labaadna luuq ciidamada etoobiyaanka lagu soo fasaxay luuq ganaane garbaharey ooda laga soo qaaday si ma arkaysa macnihii muqdishow isagoo baydhabo fadhiya uu dagaal u geliyo arrinkaasi markuu yimaaday annaga waataan fashilinay soomaan maxamed cabdilaahi farmaajo maantay magaalada afgooye gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan ee mayland ayuu tegey indhayn buu u tegey farmaajo wuxuu gacanta ku haayo haba yaraatee ilaahay abuuray ma jirto caawa way isku dhammaatay baasha way dhabaqday laakiin hadda wuxuu doonayaa in uu macnihii garab adag samaysto mayga hadduu ka faa'iidaysan karo isagay u taal hadduusan ka faa'iidaysanayna isagay u taal annagu dhihi mayno ka faa'iidaysta ha ka faa'iidaysanina dhihi mayno siyaasaddu waa interest dhihi mayno laakiin waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo baydhabo wixii macnihii lagu soo go-aan gaaray 2 habeen fadhiyo isdaba joog ah oo maanta diyaarada lasoo raacay muqdisho la yimaaday xildhibaan malaaqiyada mayga oo dhan way fadhiisteen arrinta dhisidda xildhibaanada mayland ayay ka doodayeen abdicasiis lafta garaan waa loo yeeray waxaa la yidhi abdicasiis 2 mid soo gal 2 mid saddexeeya ma jirto annaga malaaqyadii maygaa nahay 44 qabiil ee may u dhashay baan nahay dalkan annagaa iskale mana ka guurayno niyow shalay xaaraan baa lagugu keenay dhulkan duulaan baa lagu yahay isha fartaa iga gelin bay joogtaa waad aragtaa annaga ma naga amar qaadanaysaa mise nagama amar qaadanaysid 2 mid soo gal annaga ma naga amar qaadanaysaa malaaqiyada mayga ah mise abdicasiis lafta gareenow nagama amar qaadanaysid wuxuu yidhi waa idinka amar qaadanaya ma naga amar qaadanaysaa haa haddii aan naga amar qaadanaysid warqadan saxiix odayaasha warqad bay qoreen waxay dhaheen hal nin oo macnihii galmudug ka soo jeeda xildhibaan meeshaan kama dhadhaminayo mana ka siinayno warqadda waxay ku qoreen waxay yidhaahdeen galmudug dadkeenna way joogaan deegaanku ma ahan reer galmudugna dhulkan deegaanku ma ahan macnihii way iska degan yihiin sidaan annagu xagga u degannahay ayay u degan yihiin waxay warqadda ku asteeyeen oo lafta gareenna la yidhi saxiix haddii galmudug ay ka dhiibaan hal xildhibaan annagu ma deganin xagga soomaan oo macnihii degmo kuma lihin laakiin waa degannahay kaliya soomaan deegaamaysi kuma helaayaan deganaanshay ku helaayaan deganaanshooda hal xildhibaan haddii la siiyo annagana inta waxaan ku siinaynaa halkooda xildhibaan mid u dhigma waxaan ku siinaynaa macnihii deegaan kuma siinaynee deganaanshaan ku siinaynaa macnihii dad nala iska degan deegaanka ahaan sidaan annaga xagga u degannahay aan ku siinaynaa warqadaasi feermee baa layidhi waa inaad feermaysaa abdicasiis lafta gareen keligiis ma feermaynin waxaa feermeeyey odayaasha oo dhan ee mayga ah oo xaniinyo kuuskuusan yeeshay oo soo jeestay odayaasha markan abdicasiis lafta gareen karasaay iyo xildhibaanada federaalka ee baydhabo ku sugnaa dhammaantood warqadaasay saxiixeen dowladda federaalkana loo gudbiyaa layidhi galmudugna iyada fartaa laga saaro waxaana dib loo dhigay xulitaanka iyo dhisidda xildhibaanada mayland dibaa loo dhigay oo la rabay in si deg dega loo macnihii dhiso maxaa dib loogu dhigay waxaa la yidhi galmudug aan sugno inta ay dhisanayaan xildhibaanada galmudug hadday u dhaqanto macnihii siday u dhaqantaan arkayna haddii ma arkaysa warqadda annaga aan qornay xildhibaanada ay naga siiyaan inta ay naga siiyaan oo deegaan ma ahane deganaansho ahaan ay nooga siiyaan galmudug dadkeena degan ayaan annagana deegaan ma ahane warka faham deegaan ma ahan deegaanna waa leedahay waay ma ahan deegaan laakiin deganaansho ahaan deganaansho yurub wuxuu dhiibaa waxa la yidhahdo deganaansho id talyaaniga sojorna u dhahaa waa taqaanaan idga waxaa weeye deganaansho waa leedahay ma ahan waa degan tahay waa deegaan ma tiide macnihii waa degan tahay waay bes sidaasaan annaga xagga ku nahay siday nagu siiyaan ayaan ku siinaynaa xulidda xildhibaanada dib aan u dhigno maamulka mayland xildhibaanadooda dibaa loo dhigay waana la dhegaystay annagu dad la dhegaysanayaana waana la dhegaystay mayland xildhibaanadii dibaa loo dhigay galmudug ayaa la dhowrayaa marka sida ay u dhaqmaan xildhibaanada karasaay iyo ma arkaysa malaaqyadana
معني way إسرائيل أودنا وحاجة عنت كوهاية إلهي كسكو ملاقية أيام مديك تكوهاية أريكا مركو دعي استرلين عبد عروش ولا هالكيد أو وسير كأها مجالات بيدبو أيها لو تجي وحلقوا يروجي نجا قري كما أرك كرنا نجا قري دالبني ما تقول جوكتي ظلمي ما تقول جوكتي ماشان وما عالم دلنا ديجان وحكم لي ندافع لي ما أنت ديارة كسر دعي حمر وكسر قلقلي موجودة ولا كلا جوري حمر وكسر قلقلي وحاليري ماكو أرك كرنا ديجان كانوا وإحنا كمليه شقنا كمليه صاحب نضاف هذيك معنيه أمان نسي قلمودنا هذي أي معنيه أي سنديبين هل حل دبان هذي سنديبين يدنا وسير كان حتى وكسي قاضينا مركا الإنسان أنت هنا نسين كورتا أرنت ساسا لقوا فاتحيستي مقدشة اللي مادي مقدشة دوحة عاوة ساعدوا مركا يعيد كوبي طبانكا كنتم يسديد دقيقة أيو كبحي عبد العزيز لفتا قران قريقة كرساي قريقة والإنجين أيو كدقاقي الباب وحو كبحي كوبي طبانكا صوماليا مركا يحيد كوبي طبانكا كنتم يسديد دقيقة هذا هو كنتم يتضبط هذا هو لحساء يتضبط دقيقة واي لبي طبانكا يتضبط دقيقة واي سجال دقيقة كهر أيو كبحي الباب كمحمد مرسل ضمان حلبان هذا مايلان يسياسيين تمايلان قريقة محمد مرسل بهشيس كو قاتل warkalaan kuugu daraya haddana haddii faad yaasiin iyo ma arkayse farmaajo ay goradda isgeliyeen faad yaasiin xilka la rabo in laga qaado xasan cali khayre uu u danaaninayo faad yaasiin sheekada kale ee jirtaa waxay tahay maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka iyo farmaajada inay goradda isgeliyeen waxaa isku saf ah khayre iyo maxamed mursal iyo lafta gareen sidoo kale lafta gareen iyo farmaajana laba habeen ka hor ay isku dhaceen goradday isgeliyeen way kala guureen madaxay macnii saas qiq bay baashu tahay lafta gareen waraysi buu dhiibay waraysigiisay isku dagaaleen waraysiga wuxuu yidhi doorasho nin iyo codkii ma aaminsani waxaan aaminsanahay in doorashada lagu galuu yidhi abdicasiis lafta gareen karasaay doorashada waa in lagu galaa buu yidhi tii hore oo lagu daray xogoo la waasiciyey 4.5 waa inaan meelna looga kicin buu yidhi waa in 4.5 lagu galaa doorasho one man one vote ama qof iyo codkii Soomaaliya waxaa la geli karaa marka la tiro koobo dadka Soomaaliyeed oo tiradooda rasmiga la ogaado markaasaan ogolahay taasi waxaa ka xanaaqay ninka la yiraahdo farmaajo waayo farmaajo wuxuu doonayay ama uu doonayaa in doorasho one man one vote lagu galo oo niman macnii kaamamka laga soo ururiyay la isugu keenay xarumo markaasi la yiraahdo way codeeyeen oo markaasi sidaasi 7 milyan oo been ah ama 3 milyan iyo 500 oo been ah in sidaasi cod uu ku helo doonayay saasan ku soo baxay uu yiraahdo leesh hadii one man one vote ay tahay hadii ay tahay 4.5 farmaajo albaab uma furna sida professor jawaarina uu adkeeyay in maxamed cabdullaahi farmaajo doorashada uu doonay one man one vote aan dhici karin suuragalna aan ahayn tii ayuu ka cararayay maadaama lafta gareen uu ka shanqariyay marka lafta gareen wuxuu ka shanqariyay doorasho one man one vote ma dhici kartuu yiri waa in 4.5 lagu galaa dadkoon la tira koobin 4.5 wax ka yar hadii lagu galo macnii ma dhici kartuu yiri sidaasaan aaminsanahay waana sax sidaasana aqligu ogol yahay dadkoon la xisaabin in one man one vote la galo hadda abdicasiis shalay waxa geystay farmaajo laakiin farmaajo uu xanaaqay wuxuu yiri seed u dhihi kartaa معني one man one vote لو ما جلايو 4.5 سيد ودي كرتا doorashadii dadbanayd ee 2016 oo kale ayaa lagu galayaa see u dhigi kartaa iyo waa dhigi karaa waa maxaa tahay adiga ninkii karasaaya uu soo jeestay ogow maxaa tahay yiri maxaan u dhigi waay so state mali so qowmiyad mali معني doorashada saasan ku galaynaa farmaajo abdicasiis lafta gareen iyo farmaajo sidii ay madax isugu galeen qab قيق باشا مال سري قادي أريكو مركو سيدا يا مرك بيدما انتان لغا تغين waxaa kulmay malaaqiyada iyo siyaasiyiinta abdicasiisna kaalay baa leeyahay mursalna kaalay baa leeyahay ma idin talinaha wariyada sideeba mukhtaar roobo uu ku xiran yahay ninka la yiraahdo ma arkaysa macnii xasan daayir aweysna cornel magudbe sideeba live intuu soo galo
u dhihi karaa isagoo weliba shabaab sii aaminsan anigu beeshaydaa la iiga baqaayaa macnihii in uu macnihii yidhaahdo say ku dhici kartaa baa la yidhi annagoo qowmiyad dhan ah maygii wuu isku noqday arrinkii wuu ceebsaday dhibaatuu u arkay waxaa la yidhi waa inaan mukhtaar roobow soo daynaa waa in aan tashannaa waa inaan macnihii arrinkeenna aan ka tashannaa gudo iyo bannaanba xildhibaan iyo siyaasi iyo wasiir mukhtaar roobow waa in baydhabo laga soo dejiyaa waa in la soo dejiyaa caawa iga qora mukhtaar roobow mar dhow haddii ilaahay u yidhahdo wuu imaanaya farmaajo ma diidi karaa maya isagaaba naf badaaya dadka mayga ah oo madaxtooyadiisii afgooyaa laga dhigi rabaa isagoo ka cararaya xasan cali khayre iyo tiimkiisii ma ujeedaa afgooye maanta wuu tegey dhismihii madaxtooyadiisii afgooye oo macnihii uu degi lahaa xamaruu ka soo cararaya bartaasuu ka dhigan rabaa sidaasi daraaddeed siyaasaddu sarasabaynaysaa meel dheer bay gaadhay caawana kulankii ugu adkaa uguna wakhtiga dheeraa muddo siyaasiyiinta maryland waxay ku galeen guriga maxamed mursal sheekh guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayay ku galeen waxaa marka isku dhacsan meeshaas aad ka aragtaa farmaajo iyo faad yaasiin madaxay isla galeen faad yaasiin wuxuu taagan yahay aniga xilka laygama qaadaayo farmaajo wuxuu taagan yahay zakariyaba waa laga qaaday culaysaa la saaray waa in laga qaadaa ninkan aniga dadka igu diraayo faad yaasiin wuxuu leeyahay farmaajo ninka mukhtaar roobow xarigiisi ka dambeeyey faad yaasiin waay ninka baydhabo igu diray faad yaasiin waay wuxuu leeyahay farmaajo shalay dadka codka isiiyey anoona madaxweynenimo hami aan iiga jirin oo aan u dhowayn waa may 70 xildhibaan iyagaa iigu shubay shariif xasan uu hogaaminayo kuwa iigu shubay waa iyaka maantana macnihii statekaasi ma yara statekaas haddaan iska xumeeyo awalaan xumeeyey kan igu diray waa faad yaasiin isagoo dana gooni ah macnihii wata ayuu igu diray mar hadday sidaasi tahay faad yaasiin waa in xilka laga qaadaa mukhtaar roobow waa in la sii daayaa farmaaja taagan hadda ma ujeedaa ciyaarta ma ujeedaa ciyaarta meesha ay maraysa ma ujeedaa macnihii marka faad yaasiin xilka laga qaada la yidhi khayre uu soo danaaniyey faad yaasiin macnihii farmaajo wuxuu u yeeray maxamed mursal uu u yeeray wuxuu yidhi maxamed mursal sheekh kaalay buu yidhi ii imow maanta waay waxaasi maxamed mursal marka uu yidhi ii imow wuxuu yidhi kuu imaan maayo maxaa taa adiga markaan kuu imaanayo adiga anaa kaa weyn anigiyaa ah guddoomiyaha baarlamaanka adiga waa inaad fadhigayga iigu timaadaa haddii dan aad leedahay haddii kale soomaan wabilaahi tawfiiq maxamed mursal ma tegin go-aankii baydhabo markuu dhacay waatan diyaarad maantay hal xildhibaan sooma harin baydhabo maantay way faaruqaysaa way haawanaysaa 3 diyaaradood bay ku soo baxeen dadka maryland 3 diyaaradood ayay ku soo baxeen xildhibaanada dhammaantood mid soo haray male sterlin cabdi caruush walaalkeed oo wasiirka qorshaynta koonfureed ahaa oo baydhabo joogayna markii go-aanka la gaaray oo la saxiixay oo la yidhi war galmudug dibaan u dhigaynaa hadday hal xildhibaan ay naga siiyaan koodii horta ha dhistaano annaguna hal baan siinaynaa mana ku siinayna deegaan laakiin deganaanshaha ay iyaga xagga nagu siinayaan ayaanu ku siinaynaa hadday noo diidaan iyagana xabad ugu taaban mayno ina caruush mana maqlaysaa adiga intee ka degan tahay baay intee ka degan tahay bakool intee ka degan tahay shabeellada hoose waa maya ma markaad degan tahay ma afgooyaad degan tahay ma arkayse walaweynaad degan tahay ma awdheeglaad degan tahay ma qoryoolayd degan tahay ma janaalaad degan tahay degmadeed degan tahay baraaw miyaad degan tahay waa maya niyow araggaagaana dhibaaya meel xun bay bahasha maraysaa shalayna dad baa naga xasuuqdeen macnihii naga tagaa layidhi isagana diyaaraduu soo raacay xamar uu jooga hadda yaa nagu beenin kara yaa jugta culus iyo southern media ku beenin kara xamaruu usoo qulqulay kullu shay yarjuu ilaa caslii bay maraysaa go-aan waxaa la gaaray cabdicasiis lafta gareen feermee baa la yidhi warqadan annaga ma kuu talinaa odayaashii ma nahay ha idinka iyo xildhibaanadiinaasi iyo lafta gareen saxiixa go-aankan anagu gaarnay in aydan naga daba hadli karin waa la feermeeyey warqadan galmudug ha la siiyo dowladda federaalkana farta laga saaro annaga deegaanadaasi waan degannahay waa ka ganacsanaa inta ay naga siiyaan deegaamaysi ay nooga siiyaan ayaan annagana deegaan ma ahane
macnihii ku noolaansha ahaan aan uga siin doona waa tirsanaynaa haddayna sii waayaanna ina caruushka hadda caawa aan leenahay diyaaradda raac maanta aan leenahay isaga nafsadiisii inta aan ka dhisanayna xataa wasiirnimada la sugi mayne waan ka qaadaynaa mana nagu soo noqonayo sidii aa lagu soo kala baxay ina caruusha waa uu soo baxay baydhabo iyadoo 3 diyaaradood wadata way soo duushay muqdishay ka soo degtay maxamed mursal gurigiisay degeen abdicasiis lafta gareen iyo ninka la yidhahdo farmaajo way isku dhaceen faad yaasiin iyo farmaajo way isku dhaceen ninka la yidhaahdo ma arkayse maxamed mursal iyo farmaajo way isku dhaceen khayre iyo farmaajo way isku dhaceen farmaajona afgooya inuu soo deguu rabaa uu hadda yidhahdo maay mukhtaar robow waa in la daayaa magaalada baydhabo in laga soo dejiyo wey waxaa isku raacay mukhtaar in la daayo farmaajo oo doonaya in ma arkayse mayga uu weji ka helo kow wuxuu rabaa mukhtaar in la iska daayo daraad baa la iga qabsaduu yidhi awalba farmaajo uma xirnayn dadka mayga u xirnaa malaaqiyada iyo xildhibaanada maxamed mursal lafta gareen dhammaantood iyagana ma arkayse baydhabay ku kulmeen inta aysan soo bixin waxaa la iswarsaday wariyaada xasan daahir aweys corneel magudbe oo fikirka shabaab aan ka toobad keenin oo aan ka bixin habeen iyo maalin life inuu soo galo isla markaana uu yidhaahdo anigaa beeshaydaa la iga cabsadaa waxaan rabaan samaynayaa macnihii uu yidhaahdo mukhtaar robow oo 7 sano shabaab la dagaalamay oo wiilkiisii ku dhintay in xabsi uu ku jiro war taasi say nagu qabatay baa leer annagoo qowmiyad dhana oo macnihii 80% ciidamada dalkana xoogga dalka ah mana qaban karto waa in la soo daaya annagoo awalba noo xidhna daraad soo la idinma dhihin iga qabsada haa mukhtaar waa in la soo daaya haddii annaga aan isku raacno 70 xildhibaan iyo malaaqiyada haddaynu isku wada raacno farmaajona macnihii aan u tagno xataa hadduu diidaya ma diidi karo farmaajo haa maxaad ku haysataa mukhtaar nasii annaga abdicasiis lafta gareen maxamed mursal odayaasha iyo xildhibaanada federaalka oo dhan sidaasay isku raaceen ninka la yidhaahdo xildhibaan afaraale ma arkayse fadhiga caaw waxba ma maqnaynba aniga waaba kuu sheegay 11:58 daqiiqo markay ahayd ayuu shirka soo gabagaboobay hadda waxaa laga joogaa ma arkayse 18 loo geeyey 20 daqiiqa laga joogaa markii albaabka uu ka soo baxay abdicasiis lafta gareen iyo farmaajo hadalka dhex maray baa cajiib aha farmaajo wuxuu yidhi war lafta gareenow macnihii waraysiga aad dhiibtay seed ku tiri buu yidhi 1 man 1 vote ma dhici karto oo macnihii 4.5 baa doorasho lagu gelayaa doorashadii dadbanayd ee ayaan dhaweyd oo macnihii xoogoo la kordhiyey dadka ayaa lagu gelayaa seed ku tiri baa layidhi karasayna wuxuu yidhi oo maxaan u dhihi waayuu yidhi maxaan u dhihi waayo ma wax kalea rabtay in doorasho lagu galo halkaasay isku dhaafeen miyaan sii wadaaya ani update baan idin siinayay inaan kusii dheeraada ma rabo maantoo dhan ayaan hadlayay laakiin arrinta soomaaliya meeshay maraysaa dagaalka villa soomaaliya ka dhacay galabtuu dhacay galabta villa soomaaliya way gilgilatay maantay xaaladeedu caadi ma ahayn ninkii farmaajo ahaana afgooyuu rabaa inuu soo dego madaxweyne mukhtaar robowna in la soo daayo qorshuu waa sidaasi amar ilaahay waa gooni ilaahayga awoodda sarale waa gooni maygana waxay ku heshiiyeen dhulkooda inay dad u noqdaan mukhtaarkooda inay soo daystaan abdicasiis lafta gareen oo gacanta ka wada iyo maxamed mursal iyo maay oo wada socda 70 xildhibaan iyo mukhtaar oo wada socda baydhabo in laga soo dejiyo qorsho sidaasaa lagu gaaray miyaan qarinaa haddee maxaan qarinaynaa markaan dadaa waxay dhahayn aadanow inaad macnihii sirtaan qarisidayahay sir ma ahan xaqiiqo waay sir ma ahane xaqiiqo wey ama ha guulaysato ama ha guul daraysato raganimaa lagu noolaadaa raganimaana loo dhintaade rabbi baa laga baqaa rasuulkiisaa lagu saliyaa runtaana loo dhintaa macnaheedu waxay tahay war annagu dhulkeenna aan u dad noqonno macnihii dhul dadow uma soconno guri dad uma soconno war walaalkeenna mukhtaar robow aan gacanta ka qabsanno annagoo iswadanna aan imaanno farmaajo marka reer mayland uu u baahanya maanta nimankii ma arkayse muqdishaawigii kale wuu ka fiigsan yahay inay dilaan buu ka baqayaa wuu ka cararayaa haddaba marka siyaasadda
meesha loo guuraayo maygo ha dhumin adiga marka waxaan ku leeyahay farmaajo hadduu kuu yimaado uu macnihii ku soo magansado magan sii maxaa kaa gala adiga danahaaga ka wado mukhtaar robow ha yimaado isla markaana madaxweynimada soomaaliya adiga isu sharax maayo professor jawaari ken waxaad keentaa professor cabdi kuusow ken waxaad keentaa macnihii injineer saalax ken waxaad keentaa macnihii aadan farkeeti ken waxaad keentaa ma arkaysa macnihii xuseen kushug oo UN-ka 30 sano u shaqaynaya ken oo professor ah macnihii rag fara badan meesha soo taag guddoomiyahan baarlamanka macnihii mar walba la idinku soo lugooyo macnihii waryaa dalka fulinta ayaa lagu xukumaa oo jagooyinka iyo saraakiisheenna meesha dhulkeena lagu qaadanayo waa ra-iisul wasaarenimada iyo madaxweynenimada waay waxaan ula jeedaa macnihii siirkalkan aan goladan jiiradan xunta ah waxba aan online oo dikreeto aan lahayn baarlamaanka yaan mar damba lagugu mashquulin kii u soo istaaga waxa weeye waa inaad ma arkaysa shaqo adag aad ka qabataan waa inaad ka kortaan 70 sano guddoomiye baarlamaan wax la ogolaan kara maahan waa inaad xuseen kushug aad keentaan waa inaad yuusuf baadiyow aad keentaan madaxweynimo aad usoo saftaan waa in ma arkaysa aad keentaan injineer saalax waa in la keenaa ma arkaysa madaale waa in mursalka nafsadiisii aad dad ka soo dhigtaan oo maca keentaan madaxweynaha soomaaliya waa in guddoomiye baarlamaan aad ka kortaan maayo waa inaad hore u socotaan qorshaha meeshaas ayuu marayaa waan ku dheeraaday inaan sidaa ugu sii dheeraadana ma doonaynin haddii qof iyo laba uu hadlaayana jaanis waan siinayaa haddii warka aan sheegayna uu been yahay in maantay villa soomaaliya ay dhanaanaatay oo weliba khayraan kuu galaya khayre farmaajo ka soo horjeedaa faadyaasiin khayre lafta gareen iyo mursal waa macnihi isku dhinacadda maadaama isku dhincayiin khayre erge ayuu diray baydhabo u diray wuxuu yidhi beeshaydii 13 xildhibaan ha la iga siiyo Maryland waxaa la yidhi beeshiina guud oo dhan xabad naguma liidin su-aal baa imaanaysa marka khayre oo macnihii raba in Maryland uu xildhibaano ka helo beeshiisa uga helo hadday ku garab noqdaan tiimkan sidee wax ahaanayaan waxay wax ahaanayaan war qayrihii madaxweynimo raba madaxweynimada uga sii weyn beeshiisa inuu xildhibaan uga helo Maryland sidaa awgeed isagana kalsooni buu ka raadinayaa dadka mayga dad buu doonayaa dad galmudug uu kusoo fashilmay oo ogtiin deegaanka u dhashay maadaama dad uu rabo kuma qasbi karo khayre in xildhibaanada Maryland lagu daro beeshiisii kuma qasbi karaayo meeshaan dad baa iska leh malaaqiyaa go-aan gaaray abdicasiis lafta gareen waa wiil la dhalay ma arkaysa macnihii malaaqiyada ballan macnihii waxay dheen annaga ma kuu talin ahaa ogolow khayre marka wuxuu ula safan yahay isaga nafsadiisa madaxweynenimo raba si madaxtinimada uu u gaaro wuxuu ku qasban yahay inuu soo jiito waxbaa ka weyn nabiyow nin walba naftiisa waa marka arrinta meeshaasay maraysaa macnihii maygana waxaa la ogyahay 70 xildhibaan in ay ka soo gelaysaa la ogyahay federaalka soomaaliya hadhow meeshay u codeeyaan shalayba farmaajo macnihii markii ay ku qaraaraatay nimanka go-aamiyey doorashada soomaaliya xasan sheekh hadday ugu shubi lahaayeen xasan sheekhaa soo bixi lahaa laakiin nimanka go-aamiyey doorashada waxay ahaayeen ma arkayse Maryland ay ahaayeen maadaama awooddaasi ay leeyihiin marka qof walba hadda wuxuu ku qasban yahay Maryland inuu dabada usoo dhiibto marka inuu soo dhuqdhuqleeyo wuu ku qasban yahay baryo maaha macnihi wax la baryo wax kalaa jira mogta mar adiga wax aad baryaysid iyo mar lagu baryaayo waa maanta mayga wuxuu taagan yahay ma rabtaa raqiis ma qabtaa qaali isagaa qaaliga aways khamiis mabuuti uu heesay wuxuu yidhi la ima heli karo walaalay la ima heli karo la ima heli karo walaalay la ima heli kare aniga qaaliyaan ahay macnihi saacaddaas oo kale marka la joogo oo macnihii kambaynada la galaayo doorashooyinka ay soo dhowaadaan dadka mayga ah dahab weeye dembi malahan ruuxii ilaahay ka daayo dawa malahan ruuxii wad ku soo dul joogsado dumartaan ka caashaqay duunyayga raade madaayaa jacaylko dib ma uga hara haba ila degtee dumar iyo jacayl dib ma uga hara macnihii
way soo karkartay siyaasadda mayland way soo bislaanaysaa ilaahay baan ku dhaartay mayga siyaasadiisu waxay maraysaa meeshii ugu macnihii khatarsanayd bay maraysaa hadda ma ujeedaa meeshii ugu khatarsanayd may macnihii abadal aabidiin intaan arkaynay ayay maraysaa waxaan ula jeedaa marka mar hadday sidaa tahay bal dib ku noqo Faad Yaasiin iyo Farmaajo madaxay isla galeen wuxuu yiri adaa igu diray Mukhtaar Robow adigaa soo qabtay Faad Yaasiin leey adaa ummadan igu kiciyay adigaa albaabada iga soo xidxiday adigaa intaan oo dhiba ii geystay Faad Yaasiin oo deg isagana wuxuu yiri ma degaysid miyaha wallahi waa ku qasbantahay waxaan u yeeranayaa gudoomiyaha baarlamaanka bareeshar uu ku saaraya gudoomiyihii baarlamaanka loo yeeray mursal ii kaalay Farmaajo dhahay ku imaan maayaa leeyahay maxaa taadiga anaaba ka weyn oo ku doortay intaan adiga lagu dooran ana lay doortay waa inaad aniga ii timaada bug khayra soo booday ma Faad Yaasiin ka degi maayo haye lafta gareen maxay tahay doorashada one man one vote macquul maxaad waraysiga ay dhibtay one man one vote macquul maan maxaa u dhahday 4.5 ka wada maxay tahay doorashada dadban aad wada maxay tahay maxaan u dhii waayay Farmaajo maxaa jira annagu soo go'aan malin Soomaali soo kamid banin state keena aragtideena soo ma dhiiban karno annagu state keena 4.5 lagu galayaan ogolna haddaanu nahay Mayland ninka Karasaya uu soo jeestay isagana qiiq saas miyaha baydhabo diyaaraday soo qabsatay 3 diyuuradood hal xildhibaan ma joogo waxay timaaday Muqdisho gurigii Maxamed Mursal la isugu tagay wixii go'aan oo soo baxay dibaan idin kaga soo sheegay laakiin go'aanka waxa weeye baydhabana lagu soo qaatay haddana ay tahay Maxamed madaxweyne Mukhtaar Robow oo macnaheedu gacanta ay ku hayaan 70ka mayga xildhibaanada ah iyo siyaasiyiinta iyo markayse wasiirada iyo saraakiisha dhammaan in baydhabo la geeyo qorsho wasaas Farmaajo inuu cadaysto yiraahdo Mukhtaar Robow ma deynaayo inuu yiraahdo iyo waa deynaya may oo isku duuban markuu yimaado ma deynaayo iyo waa deyna inuu yiraahdo isaga af laga raba isaga bisil maantayo wuxuu ku bisil yahay afgooyu raba inuu dago afgooya iskale may ba iskale afgooya madaxtooye inuu ka dhigto raba oo adiga taageero uu ka helo bidix ka dhow dan warka aan sheegayno yaa nagu beenin kara hallow Soomaaliyay caaw baydhabo hal xildhibaan oo joogaya ii sheegi kara oo federaalka ah maya yaa nagu beenin kara jugta culus ee SMC hadana dhamaantood maanta ay diyaarad soo qaateen labo yaa nagu beenin kara maanta in macnii uurada iyo boorka uu ka kacay villa Soomaaliya labada group ay kala jabeen oo mar ay xabaddu ku dhawaatay xaaladda yaa nagu beenin kara Faad Yaasiin xilka dhig in la yiri Farmaajo uu yiri adaa dadka igu diray isagana uu diiday khayra uu soo danaaniyay yaa diidi kara dadka villa Soomaaliya joogo waad daawanaysaan xildhibaanada waad daawanaysaan waana fiirsanaysaan ma arkaysa siyaasiyiintu ma been baa warkaan sheegay nagu soo beeniya macnii Maxamed markuu madaga yiri ninka la yiraahdo Faad Yaasiin Maxamed Mursal Sheikh gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Farmaajo inuu u yeeray uu yiri Maxamed Mursal degdeg igu imow Maxamed Mursal uu yiri ku imaan maaye adiga fadhiga waa inaad fadhigayga ugu timaad ana ka weyn uu yiri yaa nagu beenin kara 11:58 daqiiqo Soomaaliya markay ahayd Yurubna ay ahayd 9:58 daqiiqo markay ahayd in shirkii xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mayga guriga Mursal ay ku shireen in Abdicasiis lafta gareen albaabka uu ka degay guriga Mursal uu ka baxay 11:58 daqiiqadood markay saacada ahayd geeska Afrika yaa nagu beenin kara geesta kale Abdicasiis lafta gareen intuu san baydhabo ka soo bixin iyo xildhibaanada maantay in odayaasha ay u yeereen warqad ay qoreen ay dhaheen Abdicasiis inaan naga dambeynaysid annaga odayaashii mayga aan nahay iyo maya soo gal in la yiri yaa nagu beenin kara inuu yiri waan ogolahay oo idinka dambeynaya
markuu sidaa yidhi warqad in la qoray oo lagu asteeyey reer galmudug waxbana nala ma laha deegaanna ma wadaagno annaguba dadkeenna xagga way ka ganacsadaan iyagana inta way ka ganacsadaan macnihii ganacsata ahaan haddii ay hal xildhibaan u siiyaan annagana ganacsata ahaana xildhibaan u siinaynaa feermadaasi ku dhufo in la dhahay xildhibaanadana ay feermeeyeen federaalka warqadaasi federaalka loo gudbiyey galmudugna loo gudbiye la yidhi yaa nagu beenin kara yaa kaleetoo nagu beenin kara in dib loo dhigay xulista xildhibaanada mayga oo la yidhi galmudug aan ka dhursugno annaga waxaan armay naga fakanayaan maya galmudug marka ay dhisato wixii ay samaysaan arkaynaa marka ay xildhibaana naga siiyaan halkii ayna siiyaan ayaan u bedelaynaa annaga haddaysan na siina dee maba isnaqaanaba in la yidhi yaa nagu beenin kara oo dib loo dhigay xildhibaanada xulistooda oo mayga ah yaa nagu beenin kara geesta kale starlin cabdi caruush wiil la dhashay oo wasiirka qorshaynta maamulka koonfureed ku magacaaban oo galmudug u dhashay oo macnihi laakiin baydhabo joogay wasiir ahaa si qalada loo siiyey in loo tegay oo la yidhi warniyow wax ma kuu sheegnaa warniyow araggaagaana dhibaaya dhulkaan nalama lihid ma markaa degtaa ma afgooyaa degtaa ma aw dheegle ma daafeed ma macnihii intee nala degtaa niyowna dhaaf in la yidhi uu xamar caawo joogo diyaaraddii uu soo raacay uu soo qulqulay ay isku dhammaatay yaa nagu beenin kara marka wax ma kuu sheegnay marka wax ma kuu sheegnay haddaanu nahay mayland wax ma kuu sheegnay maayow siyaasadda meeshay maraysa ma kuu sheegay ma waxbaan kuu qarinay waa maya villa soomaaliya waca caawo baydhabo waca baydhabo xildhibaan haddaad ka heshaan maalin dambe life sooma fariisanayo waaba ka fariisanaya bes waa annaga aniga shaksiyan waa ka fariisanaya hal xildhibaan haddii baydhabo aad ku aragtaan abdicasiis lafta gareen iyo ma arkayse farmaajo waca arka inay heshiisiin in kale maxamed mursal iyo farmaajo waca faadiyaasiin iyo tii macnihii farmaajo maanta dhex martay waca khayre iyo farmaajo meeshay kala joogaan waca waxba ma dhinade madaxweyne mukhtaar robow in la soo daynaayo lagu go-aansadayna dadkiisu awalba dadkiisaa haystay taa iyadana ma arkaysa soo hubiya laakiin muslimka waxaa la yidhi hubkiisii ugu khatarsan waa ducada waxaan leeyahay dadka maygaa 5 qaaradood meel walbo aad joogtaan waad dulmantihiin waxaad samaynaysaan waxyaabaha gudihin intaa ka baxdaan kora oo hore u socda waxaad yeelaysaan madaxweyne mukhtaar robow ha loo duceeyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinteenna albaqrullaahi ilaahay inuu dhiig geliyo dad ay iska dhigaan maanta caawa dadnimadooda yaro muuqatee waxaan idin rajaynayaa inaad u ducaysaan ama aan u ducaysaan yaanan dhihin yaanan ka saarin waayo nebiga wuxuu yidhaha loo duceeyo walaalkaa waa loo duceeyey hadduu qalday waxaan rabnaa inaan u ducayno ummaddeena 70 sano ay dhiban tahay dulman tahay dhac kufsi isbaaro boob macnihii qarannimo lagu boobaayo iyo qabiil ayaa daashaday maadaama durgawaaga socodka balaayada macnihii iska daba wareega agoonta daba madow dadkana macnihii ay rafaad ilaahay facebook uu noo soo saaray wixii villa soomaaliya lagu haayo wixii ma arkayse macnihii villa qashinta wixii ma arkayse baydhabo kulli iyo galmudug inaan sheegi karnaan gaarnay universal tv maanta macnihi annagaa ka horreyna sidaan aaminsannahay annagaa ka horreyna VOA diina lagu ciilay oo siyaasigeena xataa hadalkiisii la jarjaraayo oo afmayga laga diiday oo ma arkayse af soomaaliga laanta af soomaaligana lagu muxaabsanayo waxaasoo dhan gaalkaana u duceeya facebooka sameeyey oo wiilka dhallinyarada ah oo ma arkayse ilaahay inuu soo hanuuniyo hidaayadda uu siiyo macnihii dubkiisii jahanamo uu ka badbaadiyo liannahu macnihii shirqoollo fara badan oo dadkan la dulminaayo oo macnihii median section lagula dulminaayo ayaa ma arkayse macnihi uu naga fursaday oo macnihii wixii lagu samayn rabay oo dhan ayuu ilaahay noo fududeeyey annagoo wariyaashii ilaahay ah ee jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland inaan dadka u sheegno isku soo wada dub walaalayaal waa ka baxaya qof iyo laba hadduu hadli karana uu hadlaya oo macnihii qof walba waan siinaynaa
qof hadduu hadlaayo whatsappkayga waa taqaanaan janis baan u ogolnahay qofkii macnihi daqiiqad iyo laba hadlaayana qofkii nagu beeninaya xataa waan soo dhawaynaynaa nimanka macnihii warkaan beeninaya ama siyaasiyiinta sheeganaya haddii ayna soo wacaan wallahi waa sii daynaynaa annaga sidooda oo kale ma samaynayno oo ma arkaysa ma xanibayno annaga keenna meelahaas hadduu runta ka sheegi maago bolooga lagu soo dejiya ama codka waa laga damiyaa laakiin annagu ma samaynayne cadaalad baan u warramaynaa ilaahay caadil weeye magacyada ilaahay mid ka mid a caadil weeye ilaahay sabca samaawaadka ciririyaalka iyo dhuliyaalka wuxuu ku taagay cadaaladiisuu ku taagay maadaama ay sidaa tahay inta aan cadaaladda ku soconno waxaan rajaynaynaa inaan guulaysanayno aan aaminsanna we believe waxaan rumaysanahay inaan guulaysanayno waxaan rumaysanahay inaan macnihii guul weyn gaarayno intaan cadaaladda wadno xaawo waa ku soo qabanaya haddii ilaahay uu ka raali noqdo brinsista ayaan soo qabanaya brinsista xaawiyey ayaan soo qabanaya walaashay qaaliya xaawo ay soo dhowow haddii ilaahay uu ka raali noqdo xaawo ayaan soo qabanaya bal xaawo ay idinla hadasho وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاو صدو أنا واقف سلامي عاو آدي هذا أفرح سنة هاي والله وحاشي لي سوا عدك كرغال عاو أوكي وقال وحن كل آدي أنا أفرح سنة هاي ووحن ووحلو أفرحه محالة هاي إمسا جرى كهدا even last week يوتيوب بيسمى تمنير أم كل جري dhahay sida ugu taqsiixa badan ay iskugu imaadaan xildhibaanada kuwa kale oo wasiiriinta iyo kuwa wixiiba mas'uul ah todobaatanka lagu sheegayo koonfur galbeed yaa u diiday inay isku imaadaan oo wada jiraan si fiican haddii oo federal ay tahay gobolaysi way u imaan karaan wallahi maanta aad iyo aad u faraxsanahay haddaa waxa ay sheegaysid ay yihiin hadal oo rasmi oo day isku imaadeen inta baarlamaanka ku jirtay baarlamaanka ninka hay ugu weyn wallahi aad u faraxsanahay waana ugu mahadcelinaa hadalka annaga aan inta aan ka soo hadalno hadday ay sameeyeen wallahi xitaa hadday dhageysteen kolay iskama sameynina waa wax ayaga dhageysteen waayo waa ku soo celceliyey kelmadaas dad badanna way dhaheen laakiin hadday ay sameeyeen wallahi waa ugu mahadceliyey aad iyo aad ma arkayse cabdicasiis lafta garan iyo farmaajo dagaalkooda sideed u aragtaa cabdicasiis wuxuu yidhi doorasho one man one vote ma dhici karto 4.5 aan aaminsannahay waana sida dadka mayga ay inta dulmanba aaminsan waa farmaajona ma arkayse macnihii ma ogolayn sidaasay iskula dhaceen seed u aragtaa ani wax allaale wixii oo yani oo aqli gal noqonayo oo ummadda nebi maxamed khaasatan ummadda soomaaliyeed loogu wanaajinayo oo qofna xaqdaro loogu samaynaynin haddii one vote ay noqoto dadka qaarkood ma sameeyaan sheekadaas hadday noqonaynin oo xal loo arkaynin anigan cabdicasiis raacsanahay aad iyo aad maxamed mursal iyo farmaajona way isku dhaceen maanta faad yaasiin baa waxaa la yidhi xilka dhig bila soomaaliya oo la isku dagaalay farmaajaa yidhi farmaajo wuu diiday faad yaasiin kadib wuxuu u yeeray maxamed mursal guddoomiyaha baarlamanka ima uu yidhi kuma imaanayo yidhi maxamed mursal wuu diiday seed u aragtaa maxaa u diiday inuu go-aan u lahaado uu sidaa uu sameeyo maxaa u diiday inuu dabadhibnimada uu joojiyo maxaa u diiday inuu karti iyo go-aan rasmi uu lahaado oo dadka uu ku hogaamiyo asaga laga arki lahayn markii hore jiljilaac asaga sidaas ma samayn lahayn laakiin hadda go-aan wuxuu ku istaagay inuu waxyaabaha qaarkood iska joojiyo aadan onaga waadaalnay saa u hadlaynay maxaa idin diiday gobolaysi ah idinka inkastoo dowladda raalka aad tihiin laakiin gobolaysiin idinkoo dhan inta 97 waa iskugu imaan kartiin sababta keentay maxay tahay dhalinyarada koonfur galbeed in la soo gureeyo in la gobolada kale loo qaado ayagii gobolkii meeshay ka imaadeen jidadkooda wada xiran yahay business loogu samaystay maxaa dhimashada ayaga maxaa golaha kale loogu xuraysanaa oo meedadkooda yani qashmad camal loogu yani loo daadiya sidii xayawaanada oo kale maxaa ayaga dadkooda iyo dalkooda qaasatan meelaha ay kasoo jeedaan maxaa loo xirxiray maxaa ayaga dhimashada loogu ogol yahay hadalkii ugu dambeeyay waxay isku raaceen mukhtaar robow inay soo daystaan ay isku raaceen malaaqyada iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada Mainland baydhabo saddex diyaarada ka soo baxday maantay hal xildhibaan kuma harin laakiin ka hor waxaa malaaqyada ay qalinka ku duugeen iyo siyaasiyiinta reer galmudug inaan hal xildhibaan laga siinin haddii iyagu hal ay dhiibaan iyagana halaa la siinaa seed u aragtaa taas
absolutely wax isi aan ku siiyay hadaa isiinayna waxaad hayso aan waxayga haysanaa maxaa inteeda loo socdaa aad iyo aad ma arkayse ay maaha ayaga wax ma rabaa inay dhiibaan aniga kuwaan se u dhiibaayaan haddii ayaga wax haddii aad horta aan shargarayna waa yad bilyan arbaa dhahday haddii kuwaan wax dhiibaan kuwaana wax way qaadanayaan waa isdhaafsanaynaa ma xuma adiga laakiin wax kuma siidaayi adigana wax isii wax soconaaya ma aha kuwaana anaga waaba sheegna mar horaa u sheegna waxaan dhahanay sameeya isku imaada qof idin diidi kara male federaalaatiin federaal u shaqeeya laakiin gobolaysi waa iskugu imaan kartiin dhibka gobolada baa iyo bakool ilaa shabeellada hoose waa ka hadli kartiin qof idin xukumaya ma laha qof xoog idinku laha ma laha dadkiina dhibaatadaas wallahi ani last week xitaa waxaan dhahay wallahi yaan dhahay haddii hadda ay wax ka qabaninaan dhahay maalin waxaa dhici doonto ba ilaa ita waxay yihiin la arki doonin maalintaasaa sharciga aan saaraynaa haddii sharci aan u weynana tuugaysiya ugu argoosanaynaa inta dawladdu ku jirto oo koonfur galbeed u dhalatay horta xaaway ma kuu muuqataa murs ee lafta gareen iyo farmaajo inay isku dhaceen farmaajo aaminsan one man one vote iyo lafta gareen oo waraysi dhiibay uu yidhi 4.5 aan aaminsannahay ma aaminsani one man one vote inay meeshaasi xataa macnihi isku dhac inuu ka imaanaya adiga ma dareensan tahay xataa marka laga yimaado أنا كان اسكودا هراي بهدلين اسكودا عن سوق هذا العلم حاجة كواس أني أوكي دقيقة وحنا سأسولها وكل شيء ده أني قلت أني هدي حتى اسكودا إمامه أني قا فإذا ما هني قصاري يقوم يجرت اسكودا عودة واي because مركز اسكو في عناية بالرفاضة وكل ولا أني دتي قال له بهدل جري علاقبتين على يساري المهنة اللي تقوليه قبل هذا كلام لقيه إلا قلت قالهم dhulkooda ilaa i xamar ilaa i baay ilaa i bakool isbaarada taana loo dhigtay okay waxna ma soo galaa waxna kama baxaayo gobolooyinka kale Soomaaliya waa wada xur lug i baabuur waxay noqotay waa la iskugu aadaa way u diiday gobolka baay amin shabeellada hoose ilaa i baay ilaa i bakool way u diiday inuu baabuur soo gali waayo maxaa kale kaasna nin waay kana nin waay asaga madaxweynuhu isku xidhan maxaa u xureen waayay maxaa asaga iyo intii gobolaysyada kale ciidanka dhalinyarooyin oo yaryar military oo yaryar in laga kaxeeyo waalidin tababaral dhaho gobolada kale maxaa loo geeyay in la soo baabi'iyo ayaga dhulkooda loogu xureen waayay shaqo loogu sameyn waayay xurimo loo siin waayay ma abaal uu loo sameeyninkaas ma anaga naftirkeena kuweena oo dawladdu ku jiro ما هندا إلى هاي إلهي وحقو بريا هندها أخلي جماعة السوسيادية إنه وجوهايو أنا جمجل إن الدجال البلاي وحس أس الدجال إلى هراي ونوباد وقدام بنتي لكن هذا دبعتنا هي ستو وحبينه خبن واين وحبينه سمين واين مع شدي قبلها أنا على طفولة باورتي شو نملك سرنا الدراما الذي على الدلاء وحنا مريكر وحنا كما إمادان أو نفس الديارة كهن أنا ريتش معنا هي قبل هذا باي بقولي شباب هذا ما ريتش مي هذا الديارة اللي تستحنا عيان باورتي وقليني أديان وقدام بنتي ما حد يقول باقي سادات كمايجا جود أهانتو الدولمان جود أهان وحال أقول باقي هرت جود إنتانا لهم جود كهدي حتى الشعب كهدي صغير كود حتى باقي لهاي أبود منهانو لكن أنت أبود دلي أنت الدولة كجرتو أنا جن مسشو أنا جنو استاجنو أنا قبل كان يدك أنا دبا السوق حتى الدولة يقصوا درسة إيدها يعني باقي يا هرت مات إن ده يمسك ديالتين إلهي ينفوهايو dhibaatada nagu hayaan dadka isbaarooyin taana u dhigtay talaabada u dhigtay sida ugu dhaqsiyo badan sida maanta ay iskugu imaadeen oo u shireen go'aan u gaareen ilaa markii aankas u gaaraan oo dhibkooda hayaan dhibka ummadda Soomaaliyeed tan labaad waxaan ka codsanaynaa inay isbaarooyinkaas ay ka qaadaan wadada saddexda goboloys intaan gobol inay wadooyinkooda ay furaan oo isbaarooyinka laga qaado xurnimo aan u marno kii dibadda ka imaaday iyo kii dalka joogaba free uu ku maro in qabateenta gobolada baa iyo bakool laga qaado iyo shabeellada hoose tan saddexaad dhalinyaradeenan yaryar in la soo dadguray sidii arigii inay naga joojiyaan oo gobolooyinka kale lagu baabi'iyo annaga nusqaamis aan lagu sameeynayaa laakiin dadkeena kale ma ogo
maxaa naloo nusqaaminaa wiilasheena maxaa loo baabi'inaa in ciidana lagu sameeyo yani loo qoraa la dhaho $100 la siinaa 40 qofood mise intaasoo 100 qofood haddii kaa dhimato adigaa kusoo haray ii sheeg qofba kuma soo harin wiilasheena yaa la baabi'inayo si ariga yaa loo soo daadguraynino gobolooyinka kale yaa la geeni lagu baabi'inin military hadday noqoto anaga gobolada koonfur galbeed ayagaaba military haysanay anagaa wax iska aruursanaynaa ciidan anagaa samaysanaynaa ee military gobolada koonfur galbeed noo sameeya ilaahay ka cabsada inta dawladdu ku jirto aqliga maanta hesheen ilaahay ha idinku haayo sida maanta samayseenna waa ku faraxsanaa iskugu taagnaada wax kale idima dhahayay aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd ma arkayse xaawo bresiska xaaway waa ku mahadnaqaynaa ma arkayse waqtigaaga qaaliga ee sida aad barnaamijka macnihi noogala qayb qaadatay aadan oo adna waa mahadsan sida aad yani noo tusaysa dhibkan saaran iyo shacabkeena sida loo bahdilaya sida uga hadlaysa aad iyo aad u mahadsantaa ijiro oo noolo walaalo aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd bresiska xaawa oo ah muwaadinad u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland taasoo iyadu ma arkayse barnaamijka degdega ah qayb ka qaadanaysay aad baan ugu mahadnaqaynaa villa Soomaaliya maanta wixii ka dhacay waan wada aragnay qofkii doonaya inuu hadlana waa soo dhaweynaynaa qof baa isoo wacay sida aan u malaynayo waa ku celin doonaa villa Soomaaliya arrinteedu way karkaraysaa siyaasiyan meel xun bay maraysaa بعدما أي كركرة سنة ما أركز أنا جينا شيكنا وكو قصبنا السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ آدم يورن. سودو لايف عن كجرا مرة بتجينا كذا شيء مسوى كاجويا. واروا إن انكهلا واروا إن انكهلا حكى ليس موضوع كان ليس معوها. وحكى لي فادياسين يح فرماجو اسكو دعي ما أنتي فيلا الصومالية بوقي كدعي محمد مرسل فرماجو محمد مرسل ويري قدوميها بارلمانكا سجنا وديدي خيره يفرماجو اسكو دعسن يا عبد العزيز لفت قراني فرماجو حتى اسكو دعي ورئيسي عبد العزيز وديبي أرنت مختار روبو ولا اسكو راعي إلا سود دايو ضدك مايقا مركا أركتيد هذا محي كل طاي فرماجو أفجو يتجي أو ربع إنه ماشي الدجو. أستاذ آدم وآدي آدم كوما علينا يا برامج كأت ماشي أتصو بندقيسو أو سيد وناكسن أتصو بندقيسو آدي آدم وفاصلنا هدي آدم هدك خير ماي قد بحالي معنا قد حجة حقودنا يمكن هدي جدنا معنا وكل عداد المويدة معنا هديرين لري نتح مركا محمد عبد الله فرماجو قد كي أو أسيقو أو قطي أو اسكو ديري تاسون وقد عي مكس كوسع ولا قد جيسنا وركا جس دبر ديجا وقتك كفايدس. مركا نيو أهنت هواي قد وحاساس وهي أهنت هذا مركا كل آدي هذا مو فرح سنة إنه يسقط عن أو لو ماشي لو كله بورو ماشي أول بمعنى دولة كمجري دولة في عنكم مجري ومركا آدي هذا مو فرح سنة هاي إن لو كله بورو ماشي حق في حق اللاعب وفهمت. واقرتي سيدي أركتا أضياش دقنك يا مايلان أو يجونا جوان كجاري إن رجال مدوك ديجان كانوا وحبا كلها هين حلمان أيسن هلينين. وأخين وناكسن أو حواي أو لسود دوين كرواي أخناكسن أو لسود دوين كرواي أو آدي وفرحة أنا جو حواي هدي أنا غير ماي قل مدوك دان تكنو حلوان كمية لان كرنو وزير كمية لان كرنو إسبسيني كمية لان كرنو مركا وقالت إن معناها أو محنكور هذا أو ماشي أو ليرة هذا معناه إن معناه أنا جنا حلوان كويه لأنه أي تحان وبقرت وأنا وحواي وح أو أي لصو داهين بنآمن سنة أو رياشة أو معناه تاس وعن كباري مركا واقع ثانية وآدنا. aad baad u mahadsantahay kaasi waxa waa muwaadin u dhashay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland kaasoo isagu cadeynayay ma arkayse xaaladda siyaasadeed villa Soomaaliya karkarka ka taagan sida uu ugu faraxsan yahay villa Soomaaliya maantay xabadda inay dhacdo kaliya dhinayd wax dhinaa haba yaraatee ma jirto ma arkayse waxaan rajaynayaa inaan ma arkayse soo dhaweeyo muwaadinad Maryland u dhalatay ama Soomaaliyeed labada mid un bay noqon kartaa hadii Allah uu dalay u ka raali noqdo. Assalaamu alaykum. Live aan ku jiray ma rabta inaa ka hadasho mise af Soomaaliga ka rabtid ku hadal af Soomaaliga ka ku hadashid baan anagu sii daynayna cunsuriyiin manina anaga af baraawani hatta ku hadal
ma gelinaysaa aragtidaada okay hadhowdii aan ismaqlayna marka gabadhaasi waxay ahayd ma arkayse macnihii gabar u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland laakiin ku hadasha afka barawaaniga waxay damacday inay hadasho laakiin waxay tiri bal ma arkayse wax marka la igu sumo walaalayaal qofkii raba inuu hadlo WhatsApp-kayga waa taqaanaan dadka macnihii hadlaaya uu furan yahay messengerka xataa waa laga soo wici karayaa xaaladda villa Soomaaliya sawir marka ay ka dhiibtid waxaad moodaa in ay marayso qaaba qowsayn xilligii lagu tilmaamay ama xilligii lagu tilmaami lahaa inay tahay macnihii siyaasad aad iyo aad isaga daba wareegaysa oo macnihii sara sabaynaysa fluctuation samaynaysa ayaa ka jirta waayo dadkii awal isugu dhowaa tusaalahaan Faad Yaasiin iyo Farmaajo oo isku dhowaa way kala guureen oo Faad Yaasiin waxaa la yidhi xilka dhig Zakariye oo Farmaajo ku beel ah markii xilka hala macnihii laga qaaday ama hadhiga la yidhi pressurekaasi wuxuu ka yimaaday dhanka ma arkayse Khayre iyo Faad Yaasiin Farmaajo isagana wuxuu u arkay macnihii dhibaatadan oo dhan Faad Yaasiin inuu aabbay hooyo u yahay Farmaajo wuxuu aaminsan yahay ama uu yiri dhibaatada oo dhan waxa ii keenay Faad Yaasiin wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mudane Mukhtaar Touré dhibaatada oo dhan waxa aniga qof soo ma qabto walaal isaaq xiitay iyo dadka raba inay hadlaan adiga isoo waco anaa ku soo wacay oo ka qaban aniga macni Faad Yaasiin Farmaajo wuxuu yiri war Faad Yaasiin niyow shalay adiga baydhaba igu diray adiga macni Mukhtaar Robow soo qabtay dadkaasi waa dadkii codka siiyay 70 xildhibaan bay leeyihiin dadkii shalay ma arkaysa Xasan Sheekh iiga hiliyay waay iyaga hadaysan iigu shubi lahayn ma noqon lahayn macni wax aniga aanan ogeyn intaad magaca dawladda aad ku fuliso weeraro iyo shirqoollo ayaad haddana hadhowdii ma arkaysa anigii aad dusha la iga saaraya waana tan baydhaba ka dhacday adiga ma arkaysa abaabulkeeda lahaa anigana waad isticmaashay marka sidaasi daraaddeed warniyow Mukhtaar Robowna ma arkaysa shalay adiga gooni u haystay abtii uu yahayna waa leeda Faad Yaasiinka wuxuu dhaa abtii uu dhaa macnihii mayga abtii uu yahayna waa tiraahdaa haddana ma arkaysa adiga macnihii shaqool ka dambeeyay sibaad isu aragsanaydeen macnihii shalay shabaab baad ahayd Faad Yaasiino ilaa hadda shabaab baad tahay qaraxyada adiga fuliyo waan ogna Mukhtaar Robow marka waxaad u diidanayd shabaabkii buu la diriray meel baasaad qandaraas ka haysataa sidaa awgeed marka niyow intaa dad igu dirtay igu filan maanta waxaan gacanta ku haya ma jirto macnihii iska daba wareeg culus baa i gelisay dadkii macnihii aan shalay doortay kalsoonidooda waan lumiyey waddo khaldan baad i marisay niyow wuxuu yidhi fantashiruu fil arli deg ma degaayuu yidhi Faad Yaasiin ilaan Faad Yaasiin dawladda isagaa leh soo ma ogid dawladda Soomaaliya ninka iskale aaminsan inuu isaga leeyahay uu maalgashaday waa isaga war ma degaayuu yidhi maxaa kaa qaldan niyow maxaa kaa qaldan uu yidhi adigaba anaa ku keenuu yidhi shalay meesha nimankan way ku doorteen laakiin dhaqaalihii qadar anaa kaaga soo qaaday anaa ku qarash gareeyey sidaa markay tahay Farmaajo madaxa lagu dhuftay wuu xanaaqay isla markii Maxamed Mursal uu yeeray Maxamed Mursal kaalay yiri kaalay degdeg igu kaalay villa Soomaaliya Maxamed Mursal wuxuu yiri ku imaan maayo adiga aniga yaa weyn anaa ka weyn Soomaaliya waa inaa fadhigay ugu timaada Farmaajo qiiq uu sii xanaaqay ilaan Mursal waa garabka Faad Yaasiin iyo tiimkan kale waxaan dhihi lahaa garabka ma arkayse macnihii Khayrawa Farmaajo diifa ka yimaada marka arrinta markay meesha marayso waa tan hadda afgooye sahansaday uu doonayo inuu afgooye dega marka adaa baran waaye uu yidhi abwaankii Maryland Axmed Cabdi Gaashaan wuxuu yidhi adaa baran waaye buugii lagu sii beydkiina ku ooy bajeela la'aanta beydkiina ku ooy uu yidhi beydkiina ku ooy bajeela la'aanta adaa ka fiirsan waaye adaa baran waaye buugii Farmaajo adaa baran waaye buugii lagu siiyey madaxtinimada Soomaaliya dastuurka soo buugeeda lagu siiyey laakiin adaa baran waaye maxaan sameeyaa hadda aniga what can I do for you maxaan kuu sameeyaa seen kuu galaa xaggeen ku geeyaa
isku soo wada duub xaajada siyaasadeed ee soomaaliya meeshaasay maraysaa maantana uma eka in si fudud siyaasaddaas ay ku damayso waayo khayre madaxweynimuu rabaa xasan cali khayre madaxweyne inuu noqduu rabaa farmaajona wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo khayre wuxuu rabaa inuu maro waddada one man one macnihii waddada doorashada dadban inuu maruu rabaa khayre oo xildhibaano lasoo xulo sidii 2016 oo kale oo xildhibaano isaga u dhow intuu soo xusho ay ugu shubaan laakiin la iskuma hadlayn karo taa nafsadeeda bini aadan la iskuma hadlayn karo adii lacagta waa dhiibee moogta laakiin qofkaan markaa xildhibaan ka dhigtid garoonkii kalaabka marka la isugu tago meeshuu rabo uu codka ku shubaa moogta ilaan qol mugdiyuu galaya qofku rabo uu codaynaya waxaa weeye waa qimaar khatar ah waxmaani baxaraasitiin waay 19kaa gelaysa intaasoo milyan waa bixinaysa xasan sheekh maxamuud waad ogta intuu soo xushay doorashadii dadbaneed ee baydhabo dhaqaaluhu dhiibay intaasoo milyan markuu dhiibay xabadna ma helin baashan waa macnihi baxaraasitiin waay moogta marka khayre waddada uu marayaa waxay tahay doorashadii dadbaneyd awal xildhibaan kasta 51 baa soo dooranaysa hadda 102 xildhibaan inay macnihi 102 erge inay soo doorato xildhibaanka uu rabaa khayrana farmaajona wuxuu rabaa one vote buushlayaasha in loo yeero uu doonaya hallo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي كله فضل لبا دقيقة سيدات واركتا معني خلافك لفتا قران إيه فرماجو خلافك محمد مرسل إيه فرماجو خلافك فهد ياسين إيه فرماجو خلافك معني قيرة إيه فرماجو سيدات واركتا ويبقى أرجع أستاذي أن أرتو إذا فرح سنوان هدواي ميلا تلفوقيو ميشيل درون تكسي بيان مبوا هدواي galeen hayna mid bogaadiyay odayaalka oo dantiyo 20 kureed goradeen dantiyo email ku jir iyo sidoo walangadan guud ahaan intii isku aragaan meel wala ku dareeran islan dareero idanta guud oo dadka shileen neeyon hadawayna ka bogaadiyay meel ilaa tan sidii hore oo ar ama la siin dhaxgalne latiin liska keedirna lisinshal adeegsana ilaaliya islay iska duubnaada يعني قفت كلا ولا لكن إدريسيدا ميلي لاشيم كجرا من قرضا سيدو أركتا قضياش الجوان كإيجارين معني غير قلبودك وحبان نقول ملحن سيدو أركتا نورت جوان كسي إيد هان رواية وأنا كفرح سنة ما يبرك فلا أنت مرهوري وأرجان meel ku jar ogaadaan hay'ad in mar hore go'aan ka smeegaadaan oo biyo go'aan ka smeegaadaan hay'ad geek intuu rafaada ee shirkadna iyo qaab darado ay kala lahayna waa go'aan la haladayo laakiin insha Allah ma barajeen guulis intimada raay kooy doonto rumo meelita oo si meelita wala ko siiyay ma go'aan inta hayo waa wal meelika jaro dadka hadda geek habujeeda meelashay oo hadda ku fadahay maamulku intii wal ku helaan qalo hore tan iska deeyeen hay'ad intii odayaadan iska weerano iraan إذا عبشوا موجاو إيران وميله كموجان هاي تسميل المعمولكم أبدا عزيزة توجانكم إيه والأم كهلان يو يعني حان مرايان ده تبيرد جنايل عوضاني مبكو عوضاني هانتي أو ميلي والله نوصيه الرئيس وزير نوصيه اللي مركي يعني مبه هاي تشيكة تدخل فقدان عيا وانتي لر إن أنتهى اللواء كسين يسين يقول نوصيه يعني مركي يوم ستيدي وحمرها يعني جديد بدل يوم ميل أهل هاي يسين شاكدم هو بدجناش أهان بيلك هاي والكسيان يسين كسيف هو بكلام هاينن كوب إلهي والمنسكيدرنا سيدين كسرهانه اوكي سؤال هذا كويديه marka madaxweyne Mukhtaar Robow dadka mayga waxay dhaheen odayaasha iyo siyaasiyiinta maanta 3 dayuuradood intaysan baydhaba ka soo qaadan baydhaba hal xildhibaan ma jooga caawa guriga maxamed musare ku shireen macna lafta gareen uu ku jiro mursal uu ku jiro macni waxa la isku raacay in la soo daayo Mukhtaar Robow maaybu u xirnaa in farmaajo loo tago la yiraahdo warniyo ninkan nasiib Xasan Daayir Aways oo shabaab sheegtayba live soo galaabay ka xanaaqeen odayaasha wuxuu rabana uu sheega marka sideed u aragtaa arrinkaas horta Mukhtaar hirnaashadiis bilitodobaad sanadkun ya markii sheegi waxna way ereeyaan Mukhtaar fiiwnaa hirin waana ku hirin yaraan lan kalna min jirin
يعني هتن هو بقردين انتي ودتيو كهيرني كوبيو لي دولمياين يو لي ميلك هاين سنة ميلك جري يعني هتن جيك هو بيو دمتيو قردينو انتي لون ولا شو يو لي دلنتيو كدولميا وقاعدين يعني ما يبغى ولا إيه الهندو ولا كفرعه aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu muwaadin ka soo jeeda jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland Ibrahim Naxariis baa qoraal ii soo qoray intuu qoslay wuxuu yiri ustaad run sheeg waa ceeb sheeg waa runta dadka ku oranaya farmaajo waa fiican yahay ha fiicnaado ama yuusuf fiicnaanin Ibrahim annaga danteenaan fiirsanayna islaantii maxay tiri martile koyta ama makoyne muxuu yiri 12 galaanjaan rabaa annaga macni ha fiicnaado ama yuusuf fiicnaanin annaga waxaa noocad madaxweyne Mukhtaar Robow Ali Abu Mansuur hogaamiyaheena dhabta ah madaxweyneena waxaa noocad dhulkeena oo lagu soo duulay oo la rabo in la qaato dadkeena in la baabi'iyo annaga taas aan noocad farmaajo fiican isaga xun ha fiicnaado ha xumaado waxa naga gelin annaga danaheenan raacanayna sideenaba waa inaan ka shaqeynaa danaha Maryland maay inay dawlad gooniya ay noqoto qaran Somaliland oo kala ama Soomaaliya in si cadaalad ah iyadoo maayga hogaanka loo dhiibay waayo Soomaaliya waxa hogaamin kara maay waay cid kale ma hogaamin karta hadda time of my waay sababtu waxay tahay dadkan kale wax magaca dawladda qaranka inay boobaan bes ay u socdaan way imaanayaan kursigaasi dhiigga iyo dhaqaalaha Soomaalida inay boobaan gobollo kale inay gobol wax uga boobaan bes ay rabaan dhul boob waa laakiin dadka mayga ah gobol dadow isaga uma socdo dhul dadow inuu boobo ma rabo marka nin ammaano leh ayaa wax loo dhiibtaa mayga haddii madaxweyne uu ka noqdo Soomaaliya waxbuu kala xaq soori karaa kan dhulka dhagaxa iska leh iyo kan dhaqaalaha leh intaba qof walba wixiisu u kala shubaya ilaan isagu dhul dadow ma rabo inuu qaato laakiin nin kuwan kale ee macnaheedu dhulka dhul ballaarsiga wada ma xukumi karaan Soomaaliya xaakim ma noqon karaan waa tuugo caadil ma noqon karaan dalkay dhacayaan dadkay dhacayaan qarankay dhacayaan Soomaaliya ma sii hogaamin karaan marka hadda waxa la joogaa time of my nin hadduu madaxweyne noqdo lagama yaabo beer galguduud ku taala ama beer ku taala Hiiraan ama beer mabalahaane ee ku taala Puntland in uu boobo oo dad maaya ah uu u boobo ma rajaynaysid mana la sugaayo marka xaqiiqada loo noqdo ha macna dhul dad inuu boobo uma socdaba waxa uu sameyn karaa waxay tahay kaliya inuu macnaheedu dhulkiisina maalgeliyo dhulka kalena uu maalgeliyo bal inuu wax taraa laga yaabaa webigan oo mayga iska leh labadan webi dhulka mayga marayo inuu geeyaa laga yaabaa gobolada kale horumar uu gaarsiiyo uu bartooda uu ku dhargiyo oo bartooda biyo ugu geeyo uu bartooda macnaheedu wax soo saar macnaheedu uu sameeyo marka mayga xaakim noqon kara hadda xaqiiqadana waa saas adduunkana fiiri hadda marka la dhoofayo xataa fiiri qofka markuu dhoofayo yaa lacag loo dhiibtaa waxa leeyahay company aan lacag dhigayna dabaaji maxaa loo dhigay sida daabshiin oo kale leesh lacag ay haysataa waa laakiin nin by hof oo waxba aan haysan lacag ma u dhiibay adiga waa u dhiibay wallahi barteeda ku diimaysa maba arkaysid be uu ku tagaya hadhowdin wuxuu leeyahay ugu tagtay laakiin daabshiil iyo macnaheedu shirkadahan sababta lacagaha loogu dhiibanayo maxay tahay milyanis ay haystaan macnaheedu $10,000 inuu dhaco milyan u taalo ma dhacayo waay marka waa lagu aamini karaa laakiin nin eber ah oo shaatiga ku cadaaday bal 20,000 u dhiib ii haydhe nin caawa qaday 20,000 u dhiib ma ku hayn karo xaakim ma noqon karo nin baahan xaakim ma noqon karo xaqiiqda marka waxaan ula jeedaa ma arkayse walaaleel ogeysiis baan idin siinaynaa maanta waxaan ka sheekaynay gobolka Boqol waxaan sheegnay inta 5 degmo inuu ka koobay dhulka Maryland aan rabnaa inaan barno siyaasadda aan ula jeedno waxa weeye number 1 dadkeena inaan barno dhulkooda tuulo inaan u barno tan labaad
dadka deegaanka aan u dhalanin ku qabsa ku qadi mayside waan la degnaa waa annaga waxaan ka degnaa dhahaya meesha ay ka degaan inay nagula doodaan ayaan u sheegaynaa tuulo tuulo tan saddexaad inaan arkiifiya aan gelino oo mustaqbalka markaan dhimanno ilmaheenna haddii la noolaya adduunyada meesha laga daalacdo tuulo kasta ee Maryland degmo kasta ee Maryland iyo gobol kasta ee Maryland inaan u gudbino United Nationska dhulka Maryland inta tuulo uu ka kooban yahay dadka macnaheed degan iyo sida loogu duulaanka yahay inaan qaramada midoobay golaha ammaanka aan u gudbino liiskaasi markuu soo dhamaystirmo ujeedadeena waa saas meel dheer baan u guuraynaa waanu bahla guuraynaynaa mana hakanayno inta ay nafta nagu jirto maanta waxaan ka sheekaynay gobolka Bakool jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland gobolka gobonimada Maryland waxaanu sheegnay Bakool inay ka kooban tahay 5 degmo 5 degmo ay kala yihiin degmada Xudur degmada Waajid degmada Tiyeglow degmada Rabdhuure iyo degmada Ceelberde waxaanu soo qornay oo aan helnay inta degmo walba inta tuulo ee hoos timaada tusaale degmada Xudur waxa hoos timaada macnaheedu 54 tuulo waan sheegnay magacyadooda kliibkii kan ka horreeyay degmada Waajid ayaa ugu tuulo badan 57 tuulo hoos timaada waanu sheegnay degmada Tiyeglow waxa hoos timaada 28 tuulo waan sheegnay degmada Rabdhuure waxa hoos timaada 12 tuulo waan sheegnay degmada Ceelberde waxa hoos timaada 10 tuulo waan sheegnay Ceelberde iyo Yeed ayaa la sheegay in niman buraashadley ah iyagoo macnaheedu haraad uu soo galay mudug iyo ay ka yimaadeen la soo dejiyay qaabkii lagu soo dejiyayna taariikhyahana ka sheekeeyay dadka taariikhda yaqaan way soo galayaan waxaan rabnaa inaan u gudubno gobolka Baay haddana waxaad ogaanaysaa dadkaan dhulka waan leenahay dhahaya meesha ay kala yihiin aan arkayna 6 gobol Baay baan u gudbi doonaa Baay waa 6 degmo oo waa weyn iyaguna degmooyinkaasi qoraaladoodu way soo socdaan dhaqaalaan ku bixinay waqtiyaan ku bixinay degmooyinkaasi tuulooyinkaasi degmo kasta waxaan ka bilaabi doonaa degmada Baydhabo ka bilaabi doonaa ama Buurakabaan ka bilaabaynaa inta tuulee hoos timaada iyo magacyadooda doodaan gelinaynaa yaa idin la dega ayaan weydiinaynaa dadka mayga waxaan u gudbaynaa degmada ma arkaysa Baydhabo tuulooyinkeedaan sheegaynaa markaas kadib waa la ogaan degmada Ufuro waan u gudbaynaa sidoo kale tuulooyinkeeda degmada ma arkaysa Qansax Dheere degmada Diisoor degmada Bardaale markaan ka gudubno waxaan u imaanaynaa meesha mucjisada ay ka taagan tahay oo habar walba haykaley rabta inay gacanta gashato masaarida waxay tiri war shukran laguma barin miya ninka masarka wuxuu ku leeyahay fadal markuu cunta cunaayo haddii aad macnaheedu gacanta gelin meegtid gacantu ka qabanayo dhab uu ku siinaya adiga shukran laguma barin miya marka hadda waxaan joognaa sidii masaarida shukran ma lagu barin miya aan leenahay kuwa deegaanka aan lahayn 8 degmo ee gobolka Shabeellaha Hoose degmada Afgooyaan ka bilaabaynaa ilaa Siinka Dheer tuulooyinkeedaan tirinaynaa waxaan u gudbaynaa haddana ma arkaysa waan sheegaynaa degmada Baraawe waxaan u gudbaynaa xarunta gobolka degmada Marka inta tuulee hoos imaanaysa waxaan u gudbaynaa degmada Awdheegle waxaan u gudbaynaa degmada Daafeed waxaan u gudbay inta degmo 8 degmaan sheegaynaa waa la isu tirsanayaa ninkii dood qaba dhulka hadaad wax ka degan tahay tuulada aad degan tahay baa sheeganaysa dood la'aan qof kan ma arkaysa iskalena macnaheedu waad ogaanaysaa dhulkaaga waxaan u gudbaynaa Gado haddana 6 degmo ee Gado ayaan sheegaynaa inta tuulo ferer farmaajo iyo goorta la soo dejiyay tuulooyinka ay degan yihiin iyagoo marti edeb leh laakiin waa inay ahaadaan iyo kuwa kale waxaan u gudbaynaa macnaheedu gobolka Jubbada Hoose ee Maryland iska leeyahay waxaan u gudbaynaa inta degmo uu yahay tuulo degmo kasta tuulooyinkeeda waxaan u gudbaynaa gobolka Jubbada Dhexe ee Maryland oo 3 degmo ah 3 degmo kasta inta tuulee hoos imaanaysa dadka kooytada la keenay inta la soo dejiyay iyo dadka mayga ee asalka ah wixii oo dhan doodaan gelinaynaa war haddaad adigu dhulka wax ku leedahay nala doodaan ku leenahay dood culus baan furaynaa waxaa imaanaya aqoon-yahano ayaa qadka soo galaya taariikhyahano 70 jir ah ayaa barnaamij ka qayb qaadanaya dhulka Maryland la baranaya ilaa iyo Madiina 4 rukun warka inuu saas u cad yahay baa wanaagsan marka ogeysiiskana waxa weeye gobolka Baay baa number 2 noo ah
bakool aan ka soo baxnay maantay bay weeye bay markay soo dhammaystiranto waxaan u gudbaynaa marka hal maalin fadhi laakiin ogeysiisaan soo dhiibayna waxaan leenahay bay isdiyaariya marka walaalayaal ogeysiiskaasi gaabanaan usoo galay villa soomaaliya arrinteeda meeshaas ayay madhay waxaan rajaynayaa in ma arkayse villa soomaaliya uuradeeda ay kacayso arrinkana uu maraayo adaa baran waaye bogii lagu sii beydkiina ku ooy bajeela la-aanta bed inay maraysaad aada u malaysaan marka ugu dambayntii waan ismacsalaameynaynaa waxaan isaga tegi doonnaa haddii allah awoodda le uu ka raali noqdo halyeyga geesiga ah birlabka birjaaxa madaxweyne mukhtaar robow cali abu mansuur sababta loo xiray ereyada lagu xiray ayaan wax yar aan is amaahinayna haddii allah awoodda le uu ka raali noqdo وطان أردن ينباهنا قولنا ما يبقى انباهنا أقوم تبيونا أقوم يهندا سونا حودا انباهنا سلمته إنه ما يحصل شحنا لكني كل تالي مدورا من كوي كنا أصلي هدو كوي من أبي أقوم يهندا ينكروني دركات ليوكو أجيب يوم متكلم لجاتي maadaama iyada atamay baan sii sheegay galabtu sii gadaayay insha allahu tacaala haddii ana xilkaa koonfur galbeed ana ka guulaysado ini aaninay maadaama asaajidada aan ardaynaha ardayday ana haado doona may wada dersiyo isiyagna ana hagudbii doona insha allahu tacaala aqoon-yahanada deegaanka nambaadii dibadda jalele oo dalka roogeynan oo ana ka guulaysan inaan weyno doono la talaba doono se an daayarana se an dhaqdana maysuu beanana doono insha allahu tacaala mayba ogdina geedka ummata difaaciya baahanka adowyo badan yaha ka duuli adowyadaas badan mayba baahanyaa mayba egu doonne ay koonfur galbeed urika difaaca kora ay koonfur galbeed walanka difaaca kora ay koonfur galbeed mayba egu doonne ay koonfur galbeed urika madaxweyne aqoon-yahanada deegaanka nambaadii dibadda jalele oo dalka roogeynan oo ana ka guulaysan inaan weyno doono la talaba doono se an daayarana se an dhaqdana maysuu beanana doono insha allahu tacaala mayba ogdina geedka ummata difaaciya baahanka adowyo badan yaha ka duuli adowyadaas badan mayba baahanyaa mayba egu doonne ay koonfur galbeed urika difaaca kora ay koonfur galbeed walanka difaaca kora ay koonfur galbeed mayba egu doonne ay koonfur galbeed urika difaaca kora ay koonfur galbeed walanka difaaca kora ay koonfur galbeed qorshika difaaca kora yaa ka doon insha allahu tacaala labantii suulay markaasay waa ku gobod koro iyo oobaale aha waa ku sooro doono may alanu leehay ay aayad ka hoo ay orod ka hoo ay arabta ka hoo yala heli taanku aayadda goro ku aragtada koba koona bororka baa ka faa'iidaysan marka nabadana ma yara sallallahu alayhi wa sallam naasa manaajilahu ini markaasay may borgina ciidamada waraanka qiimo badan inuu suulayay hal yasawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuun inama yakhsha allaha min cibaadi alculamaa waqul rabbi zidnii cilma ilaahay nabadgay adduuniya ziyaadida si kan ma erna cilmada markaasay nooc kastoo suulayay may basheenay oo umar iyo adduunyada markaa cilmiya koror may rajeeyaan insha allahu tacaala iniguna dhinaga ciidamada meeluna tukuwada meel ku gaarishayna qofku unay ka guulaysana may baa nagala doonta dowladaasoy dowladii aqoontay aqoon-yahanada biidn illahi tacaala waana magaamahaya intiada gabalku museeqasa layku araga doonta insha allahu tacaala qofka una ka guulaysana ini aqoonta shaqaysa weliba may sidadaada doonta maadaama jaamacadata gabalka ku jiraan
إن جامعون واسع سنة ما يتلك الجنة هذا طوامة إنه نسوه بين مكترد بيه أقرم تمادي يشرع جدي ولا تمرك كوكولا أقرم تقدر كوكولا إنه ما جسمه صوبنا هو مرة بالكتابي هو ونحن نقول إيسا لن كست أوردر الكونفور قلبه أوردر تكيه تكيه وتندين تبني ولا وسونا كنا جرب سلوبان اللي ما ياسنا وسونا رمى ياسنا أنا كتير أكبر نبصنا كما نحكي جنة بعض وهو تركن لتبكير فلتنهن به ما يتوقع تجرب وذكر الأمان وشر الأوايدي وأمان لهلا ما يبقى شكل لها يعني نرى وطن من الفرماس وأهون ثلاثة يهو يبتو والقصة بلشد أنبان طبعا يعني ما يبقى أنبان تاني أترك ورق إبقادا ما هتودني ونجنبني كفني لو نبدأ هم لترى ويعني كلام قولها كسبت شيء ما يعنى لها أو جيبي قوة الجيم كان اسمه كرتون كل شيء يقول اللي بدأ هو بيدرى أنا اللي بدأ لي ذا لكن ما يلقى يا ما يلقى هنا كل شيء إنك جايني وأنا جربت توصلني نفس مال وقت المسكحية عندما كيل جرب سلوني هم يلقى لكن هو بتهان إذا بنت وربك فقاتلا إن هذا الناس يعزون بدرجة إذا ما تنفي إلهي ما يكون رجعين إني أغنتي أو يهرد بني المضيع إلهي سبحانه وتعالى أمان بالشتاء أو كالنعمة إسلانا وبصرية إذا سنك ما أبنى سلام الله عليكم waxaan eegi doonaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته madaxweyne mukhtaar robow aad aad u mahadsan tahay sida qiimaha iyo qaayaha leh erayada macnihii muhiimka aad inoola wadaagtay erayadaas oo ah kuwii adigaba lagugu weeraray oo naftaada khatar macnihii ay u gashay madaxweyne aad aad u mahadsan tahay cabdicasiis lafta gareen karasaay waraysiga uu dhiibay ayaan fiirin doonaa meesha maxamed cabdilaahi farmaajo iyo isaga isku qabteen farmaajo iyo cabdicasiis way isdagaaleen farmaajo wuxuu yiri sababta aad u tiri macnihii one man one vote ma aaminsani seed ku dhahday buu yiri maxaad u dhahday 4.5 baan aaminsanahay karasaay isagana wuxuu yiri maxaan u dhiiwaayo yiri state dhan soo ma matalo sheekadoodu way dhanaanaatay waraysigaasaan eegi doonaa meesha koonfur galbeed ee hirshabeelle annaga saasoo kalan maxay ahayd ee uga wareynay oo nagu gurmanaynay hirshabeelle kontonkiina waa helnaa markii kaalmo caalami ah la keeno sida European Unionka ay budget support ay bixinayaan waa helnaa laakiin wax gooni ah yaa cadaynayso inaanan cidna la joogin ninkii ugu haboonaana way diin la siiyo baan xoogo waxaan qabnaa in la sii qurxiyo oo meel fiican la sii gaarsiiyo marka waxay noqonay madaxweynaha inay labada gobol labada ka dhacay ma sheegtid waa mahadsan tahay nidaamka doorashada waad arkaysaa sida loo kala taagan yahay baarlamaanka Soomaaliya ka maamul ahaan doorashada 2020ka qaab noocee ayaad ka maamul ahaan oo adigu madaxweyne tahay aad jeclaan lahayd inay u dhacdo aniga ka maamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in koow marka ugu horeysa ay u dhacdo in la helo si intii dadka laga tirinayo oo Soomaali tiradeeda lagu ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroobayaan in 4.5kii la isku doorto state-kina la aado oo state nin walba doogan doorashadiisa uu tago 4.5 lagu doorto way extension marabta macnaheedu waxaan ka wadaa muddo qof Soomaali oo qabo waayahay marka tii hore 2016 la isku doortay ayadii baan qurxinaynaa maalinta tan tii ka horeysay 16kii waxaa wax soo doortay oday keligiis 16 konton waa soo dooratay maanta dad ka badan baa dooran kara jaaniskeedaan haynaa 100 baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badin karaa 77 xildhibaan baa koonfur galbeed lagu doortay maanta waxaa lagu dooran karaa xudun waxaa lagu dooran karaa marko saddexda gobol baa la kala geyn karaa
ayadii baan xoogo waxaan qabnaa in la sii qurxiyo oo meel fiican la sii gaarsiiyo marka waxay noqonaysaa madaxweynaha inay labada gobol labada aqal doortaan dastuurkay ku qoran waayahay waa maasan tahay waxaa jirtaa kaftan qodobkaasi ma aragteen meesha la isku qabtay macnihii sidee rabtaa doorasho 1 man 1 vote mayuu yidhi maxaa rabtaa 4.5 in wax lagu qaybiyo farmaajona 4.5 ma ogola okay doorashadii dadbanayd 16 oo kala rabaa uu yidhi farmaajo taas ma ogola meesha la iska macnihii farmaajo iyo cabdicasiis ay isku dagaaleen karasaay sidoo kale extension ma rabtaa yaa layidhi extension macnihiisu waa taqaanaa kororsi in farmaajo loo kordhiyo xilka 2 sano ama sanad wax loogu daro wuxuu yidhi maya farmaajona muxuu rabaa in loo kordhiyo haddii kordhin uu waayo in 1 man 1 vote oo been ah dadka buushlayda ah iyo masaakiinta lasoo ururiyey way codeeyeen la dhaha saasuu rabaa inuu kusoo noqdo marka halkaasi waa meesha khilaafkooda uu ku yimaaday waxaan eegi doonaa waa soo salaamay waa sheekaysanay xaaladiisaan soo ogaaday caafimaadkiisaan soo ogaaday qowmiyadan iyo deegaankan iyo ummad dhanna hadalka bini aadag waa sii waday arrintiisa meel fiican bay maraysaa ma xirno gurigiisuu joogaa waxaa u dhiman xaquuqdiisi kale oo dhaqdhaqaaqa iyo xaquuqdiisi kale oo siyaasadeed inuu helo ayadana waa ka shaqaynaynaa meel waayahay hadal aad tiri habeen markaad sanad guuradii xafladii la samaynayay ayaa wuxuu ahaa in dad badan oo siyaasiyiin oo mucaarad ah oo inta badan baydhabo wax ka ninka wareysanaya xasan caddaa la yidhaahdaa reer galmudug waayo laakiin baydhabo inuu ku dhashay baa la ii sheegay aniga isagii mahad salaad isagana reer baydhabo waayo baydhabo ku dhashay ku barbaaray caanihii iyo soortii baydhabo cunay Maryland haddana ninka shabaab waaye dadka mayga dhahayo dhan waa isaga cabdiraxmaan cabdishakuur guulo burduu ku dhashay hiiraan hiirshabeelle nimankan marka macnihii dulminaya dhulka Maryland waa dad aan deegaanadooda xataa ku dhalan waayo inta badan okay ama koonfur galbeed wax ka sheeg inaad tiri gaalkacyo xasuuqi laga geystay kama hadlaan waxaana arrintaasi sameeyay dadka ka soo jeeda gaalkacyo waxa ay keentay hadalhayn badan oo social media isqabsaday oo xildhibaano badanna ay ka cawdeen iyo dad kale maxaad uga jawaabaysaa arrintaas horta hadalka bini aadanka hadalka saa u sheegay iyo sida loo dhigay isma leh aniga qabiil uma sheegin waxaan u sheegay dadka habeen iyo maalin hal sano yaa laga jooga hal maalin kama hadlo dadka siyaasiyiinta hal sano waxay nabayeen oo been ka sheegayeen oo dulminayeen koonfur galbeed ujeedadooda ayadoo ay tahay madaxweyne farmaajo ku ceebeeya kula dagaala qowmiyadan iyo deegaankan iyo ummad dhanna mucaaradnimo looma dhibaateyn karo dad isku tashtay oon dhib qabin oo maslaxadooda haysto oo dowladooda haysto oo siyaasadooda haysto oo nabadooda haysto isku qanacsan oo isdhaqanayo inaan maalin walbaba dhib ka sheegto yaa ka sii xun halkii maalin oo ay dhibsanayaan hal sanay waxay sheegayeen wax been oon sal islaam ahayn annaga marka qabiil baa yirmaa waxaan ka waday ujeedada waxay tahay way isla socotaa haddii ay bini aadamnimo laga hadlaayo oo xasuuq ay u gurmanayaan oo si bini aadamnimo ay u leeyihiin meeshaas xasuuqa ka dhacay xasuuqkii ugu xumaa kaas u ahaay ma u sheegi waayo marka hadalka waxa weeyaan qabiil lama jeedin waxaan ula jeedin waaba sheegay meeshan ka sheegay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo habeen iyo maalin wax kasto markii ay rabaan inay biyo cabaan baydhaba sii maraayo markii ay rabaan inay farmaajo wax ka sheegaan baydhaba sii maraayo markii ay rabaan inay khayr wax ka sheegaan baydhaba sii maraayo yaan ula jeedin annaga dawladda 100% yaan ku faraxsanahay dawladda Soomaaliya inaan la shaqeyno garabstaan waata dawlad kasto Soomaaliyeed oo timaado way sidoo hore kugu sheegay annaga u baahan dawladnimada waa qalad qabiil ma aniga qabiil kama hadlin qabaa'ilna ma haysti cid gooni oo haystana male ninkii ugu horeeyay arrintaas markay dhacday xaliyay baan oo go'aanka ka qaatay guddiga u diray
yiri qabiil looma dhigi karo qof qabiil looma qabsan karo dhacdo fool xun bay ahayd waa cambaaraynaynaa waxaana rajaynaynaa in la xalliyo ujeeddada aan u sheegayo waxay ahayd haddii bini aadamnimo ay kaa tahay oo xasuuq diid ay kaa tahay inta xasuuq kama dhicini xagga xasuuq ka dhacaya maa sheegtid waayahay waa mahadsan tahay nidaamka doorashada waad arkaysaa sida loo kala taagan yahay baarlamaanka soomaaliya ka maamul ahaan doorashada 2020ka qaab noocee ayaad ka maamul ahaan oo adigu madaxweyne tahay aad jeclaan lahayd inay u dhacdo aniga ka maamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in koow marka ugu horeysa ay u dhacdo in la helo si intii dadka laga tirinayo oo Soomaali tiradeeda lagu ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroobayaan in 4.5kii la isku doorto state-kina la aado oo state nin walba doogan doorashadiisa uu tago 4.5 lagu doorto way extension marabta macna waxaan ka wadaa muddo kororsi ma qof Soomaali oo qabo waayahay marka tii hore 2016 la isku doortay ayadii baan qurxinaynaa maalinta tan tii ka horeysay 16kii waxaa wax soo doortay oday keligiis 16 waa soo dooratay maanta dad ka badan baa dooran kara jaaniskeedaan haynaa 100 baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badin karaa 77 xildhibaan baa koonfur galbeed lagu doortay maanta waxaa lagu dooran karaa xudun waxaa lagu dooran karaa marko saddexda gobol baa la kala geyn karaa ayadii baan xoogaa waxaan qabnaa in la sii qurxiyo oo meel fiican la sii gaarsiiyo marka waxay noqonaysaa madaxweynaha inay labada gobol labada aqal doortaan dastuurka ku qoran waayahay waa maasantahay okay horta Cabdicasiis lafta gareen iyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobka ay isku qabteen waxaan u malaynayaa inaad aragteen shaki kuma jiro qodobkaasi Farmaajo aad iyo aad buu uga xanaaqay uu ka carooday wuxuu yiri seed u dhihi kartaa one man one vote ma ogoli waa 4.5 aan ogolahay seed ku tiri extension ma ogoli in loogu daro madaxweynaha ma ogoli seed ku tiri sidaas la isku qabtay madaxana la isla galay saasana faadiyaasiin hadda ma arkaysa maantay macnii isaguna xilka ka deg loo yiri maxamed mursal loogu yeeray uu diiday ma arkaysa khayrana oo ma arkaysa jiiro uu u galay farmaajana uu doonaya afgooyo inuu ma arkaysa dago gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland oo hadda guri loogu dhisay isku soo wada dub barnaamijkaasaan rabnay inaan idin la wadaagno meel walba aad joogtaan degdeg ah laakiin waxaan eegi doonaa in dhacdo oo dhahaya cadaalad waan waayay haddaan helayo shabaab aan ka nabadgelayo shabaabkan cadaalad u raadsan lahaa marka Yusuf in dhacdo oo cabaadaya ayaa ma arkaysa la arkaya hadda oo leh macnii waxbaa la iga haystaa waa xaalad kale sidaan anigu rumaysanayo aragtidaydii yani Yusuf in dhacdo oo ma arkaysa cabanaya waa wax kale adduunyo kale waay macnii adduunkan anagu ogeyn kolley ma ahane waa adduunyo kale laakiin waxaan eegi doonaa Bakool iyo Baay iyo Shabeellada Hoose siday u kala xirxiran tahay gudoomiyaha gobolka Bakool aan dhageysano markii sanad guura ku sheegay Baydhabo looga yeeray safarka uu soo galay Xudur iyo Baydhabo inta dhul uu soo maray aan dhageysano bal isaguna haddii Allah awood leh oo ka raalina waxaan isku daynaa inaan ma arkaysa idin daarno dhulka sida u kala xirxiran yahay shabaabka sida loo siyaasadeynayo sida la doonayo dadkeena kaliya in loogu maxamed musaale idoodaha qaraar maxamed musaale idoodaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed idinkaas la qaramay mashaashadaadiisa ma ah waana fara idinkaas la qaramay oo la diyaar garay degmooyinka muqnaafura xamurayna dhafada marka taas si sindaara sinjin qosadaan madaana tum gudubta maan gudubta wada مطعم الدنيا لما نسدل الحاسي تقول إيه بس إيشة تقول إيه بس واسي سعودي ما يختار عدوه تختار واسي من المسائل إسبتال waxay soo wacaya ma arkayse madaxa guud ee saxaafadda koonfurta Soomaaliya salaam alaykum yaasiin abikar studio si toos ah ma uga hadlaysaa live aan ku jiraa
ها ayay igu socday okay madaxa guud ee saxaafadda koonfurta Soomaaliya na soo wacay kulay buuq ku jira laakiin dib iyo madaxweynaha koonfur galbeed idinkaas la qaramay mashaashadaadiisa ma ah wayna falay idinkaas la qaramay oo la diyaar garay degmooyinka muqnaa furaha hurayna dhafada marka taas si sindaara sinjin qosadaan madaana tum gudubta ma gudubta degmada elbed madaana degmooyinka lama la sadilay haasi degmada elbed bas ishaa degmada elbed oo waasi soo dink ma taala xuduudta taal واسم من المسائل اسبطال هو يجب أن يسافر دولة يسافر من دولة الجالس اسبطال أصلا تشغل وشغل بالله وقت ما يستطيع الدعوين فيه ولا تنقلب في أعطمات المشاهد ما كان الإمداد قريب قال وكاسين سيودين حول بالما اللي حال قال بس في هذه الفيقة ومعدي أنا قبل كبطول تراتب الرقم تراتب ما يكون هذا gobolka Boqol hadaan nahay dhibaato badan aan qabnaa uu yiri tabaran gobolka si sheegi ma hadaas waa isku leeyahay madaxweynaha gobolka koonfur galbeed iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Afrikiin oo dira badan jir marka dhamaa walaas hadii dowladda ay leeyahay dowladda ay ku gudbaan ku lahayn hada dadkiidan daaran kan soo gishay amsina gishay ma taasoo way fadhay madaxweynaha koonfur galbeed saxsinido سمعت كلام مدير على مساري وأصلا إذا تموت تيجي إذا تموت هتدور لوري بعدين تاسع من تالي حتى سنلهم ممكن كوري تاع والبلغ من القبض لكن تلعبون لما ما يفعل تورون تولي هاد مصر كل دميل ما حاسس أنتم دولة سنين لوري إذا ما جاوا بمهرون إذا ما سوما وهم إذا كانت بقول كمان بدنا تري إذا ما بقول كبدين أنا على هذا الجرمي سيرامي كي أول من يقولون دراسة من لوري ده تنكر تبدو من أيام هتبدأ هتكون سنفيري تكبر ما فدي تكبر ما فدي سراكين ما فدي ترى من دير ما تنسين بدر لانجلسة هذا هو مسين لون بورا كمان ما يدار دار للفرات المضافة بورا كمان صدق كذا بدر انت لا تنمو بدرنا حتى بورا كمان دار للرام أنا بقول ده واقوسه بورا كمان دار للرام ما كمان دار أنت برا لما هم يقولون ساري تقوسه كده هذا اللي تقول ده مثلا هذه هذه تمام كده هذا أكيرا وانت مثلا لكن ما بحاجة ما كان بدل لكن تفعله جميل أريد أن أقول أنا بعهم ولا هذا السنة أنا تاوي ده السنة تاوي إني ما تاوي لكوباية تاوي لكوباية تاوي إني أنا أجار كنت بين من كلمة إني من الروي دون به إني وانت جنت على به هتيجي بعمل إيران لكن هتستشعر أفتن له لكن هتقول لي فيها وقدر المهتة وأبو ترى وقدر سألوا همين وقام تاسع تفكر ما تقول هذا اليوم تقول يا عبد الله دولت عبد الله يوسف ما دار عاصمة هاي لما بابك أنا فاكر إنه هو هذا اللي هذا ما تعطينا سيدي ما سيدي جت عنها ولا نرى ما يهونه كبلاو إلى ما دار تأمه أو إن اللي كنت ذا تكلم له رأي البان ما أفعل سنة تكلم الناس اللي كانوا يقولون بها سنة تكلم الناس اللي كانوا يقولون بها ولا ما استجاب ولا أمر تليفون ولا في اللاعب ولا تجاب من البلد ولا هو في بيت الجيران بعدين في الجيران لكن شو أمر الناس يقولون يا إيش اللي ساجدا أنا أنت ماشي أنا إذا اللي بقول شيء متأمل وراي صدق اللي متأمل شيء ورايا ما ورايا تلقى كم هاستا إيش اللي ساجدا فرق ما فراي باي بكور إسكندر من إلى شمال هوسة لهو ينتبه شمال هوسة ديرم جام ما دار قصر تهدل حتى الدنيا لا يدري بورا يدري ساس ما ينش شمال هوسة ما ديرم هذا انتبه من الفدية فرق ما فراي إن ما دار الكتار كورسان الكتار مشاريع بسم الله الكتار خران تداركم الكتار نستكن ولا تبغ ولا من شمال حدود على نسكدون لما تقول الناس كده تقدر لما
سديد كلام من أشياء سين هذا شيء مخصوص لكن هذا لما الله سبحانه وتعالى ما تعرف الدرسن اسكتجني إن إسكال معنا ولا أفورينا دولة ولا سنتين ولا سنة تبي ولا صاحب هذا الجرم لكن اللي كفاية إذا دولة اللي نشاد لكن دولة والله قبل أنا سأسافر صدق سنين ما جرى جرى من الجرم ودي جرى من المقبل أنا فرا كذا الدولة يربو هون وراي بيشان قال فرا تكتب بتاعت فرا بي تكتب ما لا فرا تفسير فرا بي تكتب ما لا فرا فرا بي لما تدرب طبعا وراي قرآن كحضر بس وأنا قالوا لنا بيسي الكاسر بس سلام عليكم gudoomiyaha gobolka Bakool Mr. Tol oo arare ka tirsanaan jiray waxaan u malaynayaa waxba ma uusan reebin wuu dhameeyay warka waa uu dhameeyay Ibrahim Yarow baan arkaynay ayaan dhaweyd isaguna oo ma arkayse macnaheedu si weyn u hadlayay oo dhahay ma arkayse anagu waan lagu xadgudbay anigu laakiin ma arkayse xogo waan dhaliilsanahay qodobkaas isaga ah sababta tadii lagu soo xadgudbay maxaad u aamusnayd intaas oo dhan weeye يوسف عند عضو دعونا يا أنا بدعونا يا الشباب أنا بدعونا يا الشباب هذا على فين وين بتكلم أنا هذه قف كل سكنة أنا الكلام يا ما كفي لها يتعود يطلع هذا ما حنا عدالة كما في لها يصابته يتعود يطلع وأنا يطلع تذكر دعونا واحد كوينتي ما يستاهل وتعود الله فوق واحد كومنتية إلى دوكمنت أتعود قلك أقرأ وفري مركان إلي ورقل كان معلو وفرو شرعينا وعلو يقف كستان وفري كانوا كدعوين وانا شرعي دب وشرعي دربو ما تعدل ضرب وعلو تريد قدوميك محكمة قلت موسى وحانو قلت دوكمنتي بان وحكولها وحانو قلت وحانو دوكمنتي شرعي وحكولها يا دعوة محاضر سوري محاضر سوري ما مفروع وكتب والفرن دعودي مركان بأمن وشأ النقوي دي وقلت الإرلع أروح قرصاري أروح دعود دان سامي كس عنج لكن طريقة صومرة ما قرصاري بس ما مدري وأنا جوا أنا أتكلم كده أنا يقول أنا يقول فوقي ثلاث سنين كوري يقول marka meeshaas marka la taawano hadana okay waa macnaheedu Yusuf indha cadde qabqablihii gobolka Shabeellaha hoose isbaarooyinka dhigan jiray umada biyaha ka iibin jiray oo ma arkaysa dhahaya macnaheedu aniga dacwoonaya dacwadiina cadaaladaan waayay marka walaalayaal barnaamijka halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa amalkan Ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midka aad u amal falaysaa daraadii eebe uu arkayaa saayidana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkan iska yareen sababta takaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulannaa xawdkii nabi maxamed idam alle ee jannatul